وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحنا وكالة بيها ماريو وقامنه هي مسؤولية لا سقطها مركوات يمر لها بكسوبات ولها ولها عنا جودي إلى أنت يدرك الخطر marka labaad mahad ilaahay ka sugo waxaad ku mahadsan tihiin saddex soo ajibteen waajibkii dastuuriga ahaa annaga iyo idinkaba waajibaadka siinayay inaad ixtiraamtaan boqolkiiba boqol ku duraysa intaan shirku noo bilaabin sida sunuhu yahay من كوين هالكن جاكم من الشقة أنا كنت أنا نوب بالعميل وهي إنه يسوي دين إنه حينكم بالعمل إن آيات القرآن الكريم اللي بقى الشيخ سعيد سبحان الله شيء تجينا فرق في الجنة وفرق في السعير وحنوس وقتي إن أنا ندرسيه مسؤولية ديني جاه إسلامي جاه المقدس جاه عصي صوب تبدأ بكويدي سنة waad mahadsantahay xildhibaan labada su'aalood ee weydiisay tadamada hadii aan ka horeeyo sanad kasta qorshe miisaaniyadeedka la idin soo gudbiyo qayb ay ka ahayd oo talagalka la idin soo gudbiyo qayb ay ka tahay waanan kugu raacsanahay waxyaabaha culayska maaliyadeed ee dalka ka jira in golaha la keeno taas waa awoodiisa sharciga taas waa waxaan halkan u fadhinaa xildhibaan wixii ka dhimana waan eegi doonaa talabaad ee ah maxaan idhaahdaa mas'uuliyadda hubinta biyaha anaku ma lihiin mas'uuliyadda hubinta biyaha dalkaanu leenahay taa midaan leenahay midaanu sheeganay iyo meer awoodda shaybaarkaan kaga darnay midna ma jirto ciddii timaada sadda waa loo baadhaa hargeysana waan kuu sheegay wakaaladu dee waa hay'ad u madax bannaan qaybinta iyo horumarinta biyaha marka xeerarka dalka wixii dee qabyo ka ah dee way noo taallaayo annaguna inaan ka fikirno tala idinku soo jeedina idinkuna dee idinkaa mas-uuliyaddii sharciga ahayd leh wixii qabyo ka ah laakiin meel ay awood hay'ad kale lahayd wakaaladu ku jiidanaysa ma jirto waxaan isleeyahay midda meesha ku jirta waxa weeye hay'adaha qaranka ee kobaca sameynaya way mudan tahay in la dhiirigeliyo si kuwa kalena ugu daydaan laakiin hay'adii horumar samaysayba haddii 100 caqabado loo dhigo maandhawid lagu meeraysto maanta la war maandhawid ku meeraysan in dalkeenu wuxuu u baahan yahay wax la qabanay maxaynu qaban karnaa waana ku sheego inanka jaamacadda ka yimaada ku taala Boorama maalintii dhawaan Maxamuud baa mise jaamacadda Maxamuud uu joogay shalay shaybaarkan uu joogay uuna tagaade de marka ma waxay dawladda ma lihi Booramaad ka tagtay oo tago dawladda wasaaradda amba meesha ma qabato midda meesha ku jirta waxa inankaas uu imanaya tababarkii baa la siinaya maxaa lagu tababarayaa bulubala class looga dhigay mishiinkii baa la dul istaajinayaa sambalkii baa la tusayaa sidoo sameynay ka burcana waa saasalaagta jaamacadaha Hargeysa oo wadankaas marka aqoonta aan waxayno waajibka naga saaran bay tahay dalka in loo gudbiyo dhageysadii waa contribution social responsibility xildhibaan maxay abigo yarka meel wax ku barto waayay laba wigi yimiday sharciga ku siinaya inaad tiraahdo kuma baran karto kaadi biya sharciga ku siinaya ma jiro markaan soo ciyaarana laakiin waad oran kartaa taas waa qodob way ku jirtaa waxana waa hanti dawladeed aanu jaamacaddii burcana meehi jaamacaddii Hargeysa meehi horta xildhibaan afkan ku hadlayana ka ma laakiin dhalinyarta dalka wax baratay meeshii ay wax ka jiraan way tagayaan waxba ku soo barayaan sharci u diidayaan ma jiro taasi waa qodob saaka u dambeysay waa daa shaybaarka waxa ku jira ardadii Dr. Edna jaamacadda Edna Adam University oo iyaga la toban soo bara taasna waxa weeyaan maxaan idhaahdaa waa bulshada waxaan ku celinayno iyadoo halkay gaadho wakaaladu inay bulshadu ka faa'iideyso waayo waa hanti bulshadu leedahay waxa bulshadu guud bay ka rabtaa Soomaad garan taasi waa qodob iga Cabdullah xildhibaanku waxa aan hayskada taasina waa qodob marka responsibility aan cid ku qabsanay ama aan ku haysanaa dee ma jirto concern bay ka qabtaa qaabka shaqaalaha u qaadataan iyo qaabka dawladdan waxay yiraahdeen bila xuquuqba saacadii doono lagu eriyaa bila xuquuqba diiwaan ma leh qofkii la doonaa la keenaa qofkii la doonana waa la eriyaa arrintaasina warwar badan bay ku abuurtay dad badan oo wakaalada biyaha ka tirsanayna warar waa naga siiyeen arrintaana waxaan rabnaa inaad aniga shacabkaba aad naga shaafidaan baan doonaynaa su'aasheedii sagaalaad sanduuqa SSDF lacag teleg book SDF lacag teleg book ku bixiyo wakaalada biyaha Hargeysa
ما دام هذا مشروع عاصي كور ما سلعة تقول رسالة سؤال شكله هو هاللي وأتصاد القاطع تودا هذا الكيلو كتير شعب كبير جدا وده كعبان يعني إن بيرتهم مدحوينه ريجي الله فصحي سجى شعب كينا ريوه هاللي بيرا الهاي الدنيا ارتهان اللي جتوا شيء محاكة جرا حد يجرتو شرعي مدحوينها نسيه شعب كي الدنيا ارتهان بيرا الهاي جتوا شيء هذا عسكتين وندونينا وحدتكو كهالان مجرى وحليرة وجيندا سورس وكالة بيه ولا يضحي أما بيه وكالة بيه هرجيس وحنو هنا حق إن بيرتم مدحوينها الله يرخصيسان بيهنا أتصيسان dadkii kala beeraha jaarkuna aanay xaqaa aanay helin xaqaa gaarka u siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu shacabkii beeraha lahaa uu kaga gaar noqdana isagana waa doon anaga shacabkeena naga kaafidaan sharciga cuskuteena waa doonaya mudane maaray warbixintaada waxaad ku dartay in biyaha Hargeysa macaani ay geed dable uun ku jiraan inta ma ya inta la hubo biyo macaan oo la soo garaaci karo eego la sifo biyo macaan ku la soo garaaci karo yani ma bilin lagu sameyn karo okay laba su'aalood bay haray saacada wad bedeshaan qasab iyadoo saacad istaagin $50 baa ku qasabtay naqatan lacag saacada suuqa laga soo iibsay wakaalada biyaha Hargeysa iibisa saacada dad ku qasbaysan meelay ka samaystay maxay tahay waxa ku doorateen astaamaha iyo calaamadaha dadka ugu qasbaysan ee ugu iibisaan marka saacada qofka aad ka joojisaan ee saacada loogu soo xirayo $50,000 baa ka qaadano biyo soo celin saacadii guriga laga furayna waa qaadataan meedika xaqol saacada guriga aad ka furtaan inaad uga tagtaan oo cusub ay ku qasabteen aad ka furtaan aad ugu xidhan labada isku meeshaan sharciyeediisii dadku waa danyar oo masaakiin marka saacad qasaba lagu qasbay ee tii laga furay ka qaadatay ma dib aad u samaysaan oo ugu hagaagsan wakaalada dhexdeeda kuwa kala diinaysa baad ka dhigtaan ma burburisaan oo ma Itoobiya loo raraa xagee la geeyaa way qofku markuu aniga leeyahay dhahdo saaka bedel laabadan leerku markuu yimaado laabadan iga bedelo halkan aad dhigtaa qashinkeega ama ay xumaatay ma hagaagsan sharciyeediisina dadka qaadatan biyaha wad tartaan hadday meel ka liigto lacagta inta la gidi ko dadka qaaday ee fixirka marka tartaan biyaha marka tartaan farsamado dhan beebka weyn imika 40 xaafadood waraabinaya markuu meel ka dalashamo halka ka hagaajin leedeen inamadaadu inta u tagaa bay gamuuraan way xiraan deetana marka soo sameeyto waxay noqotaa wakaalada la yimaado deetana cala qoys 40 kun Soomaaliland laga qaado la isku dartaro lacagta wakaalada lagu soo shubo hadda waa cilad u baatimid farsamo shaqaalaha mushaarkaad siisaa haddaanay cilada ku filin maxaa mushaarka qaranka loo siiyo soo celinta biyaha qasabada liigtay aan xidhin marka la soo celiyo lacagna xaq ka qaadaan isla qasabada lagu bedelayana dadka soo iibsada lacagta wakaalada biyaha gashaa marka waxay ku shaqeysaa haddaan anu kii lacagtii siiyay uu igu hagaajiyay qasabada haddaan soo celintii $50,000 laana bixiyo halkan ku jirta haddaan bixiyo Allahumma salli ala Muhammad bariyaa soo iibsaday dadna kii lacag shaqaalaha wakaalada marka ma charity baa dadku iska siisa shaqaalaha maxay qabtaan su'aasheedu ugu dambaysa maanta waxaynu joognaa 17 February 2022 يا جوجنا بيها مدن مارية صاحبنا بروفيسور باتاي وذكرنا يسا بيها كيسال كمريان غورما أي ريها رجيسة بيعبيان وشيء جيسين بيها عبيان واي شقدو ما شقيس كسعته وشقط تايم له محل هذا وقت له حكتها إنه هيني واحد انتو توصل 20 هرجيسي بيعبتو وقدام بين ما أنت نفعنا ولا فرق كمان نقدر نقطة غورمي بيعبيسه غورما أي هرجيسي بيعبيسه أرنتا وقطن بيصير سؤال شيء ده رعانيه ساعدها تدخل قصبتين يسود الشيء كم بيجي يسود الشيء إن النشر تمر من المجلس هل سؤال بنسكر جدا أنا ما كحلو هل سؤال بس كده سنة كم بيجي يسود الشيء كم بيجي يسود الشيء ساعدها وحنا من المجلس قررنا حفيز كيس قررنا أن نتجنو
wuxuu ku duway preferencekiisa ogaano sababta u doorbideen aan ogaano maadaama marka aniga gurigeygii saacadda ku xidhan tahay mar walba fixed lay keenay waxa ku jiray 4 sanadood baan guriga ku jiray 4 sanadood lacag isku mid ah baa laga qaaday maalinna $1 miis dhimin $1 ismay bedel fixed bed mar day fixed ma cabin aniga 2 bilood oo ku maqnaayo halka kursigan maanta ku shaqeeyay marka raadinayay 2 bilood lacagtii waa laga qaadaa gurigeygana lama gelin qufulka ku dhajiyay maalintii aan iyo islaamta bad ayaan kaga tagay waniga kule marka saacadii maxay muhiimadeedu tahay mar hadayna ayna difference sheegayeen biyo ayna sheegayeen waa ka baxaya gudoomiye ya ha afrato wala xabad u dambeysay baan gudoomiye sheegaya xabad u dambeysay sheegaya xabad u dambeysay baan sheegaya gudoomiye raaliga ah waxaad noo sheegtaa wax soo saarka dakhliga wakaaladda biyaha Hargeysa maxaa shaqaale ku baxa maxaa shidaal idinkaga baxa maxaa hawl kale idinkaga baxa arrintan wax rabnaa inaad warbixin fiican naga siisan aad iyo dood maasantay gudoomiye iyo mudana maaray waan ka baxana ha شوت اسمع على وضع واي وانا مستني ولا شيء او وما سي حلوان حبيب حلوان انجنير احمد كورينا waa mahadsan yahay horta mid baan jeclaan lahaa inaan kalsoonid ku siiyo mudane gudoomiyaha gudidaadaba xalaali wixii su'aalaad weydiinaysan waqtiga doontaa qaadato diyaar baan idin hadee maqribkii noogu dhacayso hadduu waagi noogu bari ragana war dhalinyar habeenii maalmo oo shaqeeya horta daa diyaar baan idin su'aalaadna weydiinaysaan tabaysaanna waxa laali xasaasiyadooda ka qabna waxa tiin xilwaanada qaranka shacabka idinka midala awoodiina waa isku ixtiraamayna mid kalena meesha waa ku jirtaa mid kale ku jirtaa waxa weeye maadaama goluhu cusub iyo xilwaanaduna cusub yihiin waa inay xog helaan hadaan xog helin seebay xeerarka u dejinayaan waan hay'adda dawladda xog ka helaan xogtaana dibeeto ay ku go'aan qaataan wax ku dhisaan wax ku hagaajiyaan ujeedaduna runtii aan ka wada duulaynaana waxa weeyaan hawlaha qaranka sidii loo wada horumarin lahaa hadii hore loogu sii qaadi lahaa loo dhisi lahaa waayo gabadheena waxaan ka shaqeynaa baahiyaha dawladnimada inay ka jawaabto marka taana waan isku boorin lahaa marka waad mahadsantahay xildhibaan maxamed Habib waxaad weydiisay 14 su'aalood amba 15 oo mid hal su'aal oo saacadaha isku noqonayso su'aasha koobaad imise guri amba imise xafiis oo dawladeed bay wakaaladu biyaysiisa waa su'aasha koobaad waad ku mahadsantahay xildhibaan horta guryaha imika wakaalada biyuhu waa laba siyood baan u kala qaadanaa amba laba siyood waxay qasabada ku gaadho waxna waxay u dhaamayaan waa dameer qadiyaha iyo dameerka laftiisa magaalada ka dhaamaya biyaha wakaaladu qaada kuwa laftooduna dad badan ayuu gaarsiiyaa kuwaas nooma cabirna laakiin waxaan aaminsanahay in tiro badan ay ku tiirsan yihiin maadaama dadkuna badanka ay daneeyaan biyaha geedeeble ay ka door bidaan xag caafimaadka iminkana waa ka sii xag jiraan oo biyada labadii week ba mar la baaro la daweeyo xaaladooda khubara la socota si joogta ah la socdo marka baahida dadku u qabeen iminkana isticmaalkooda waa ka sii badanaya marka kuwa dameer qadiyaha magaalada ka oo guriye badan laakiin ma tirsana guriyaha qasabadu gaadha waa imisa systemkayga hadda tagto waxa ku jira ilaa 20,000 guri laakiin waxa biyaha joogta ah helaayon kala googo'ayn amba aan sida tooska u xidhan waa ilaa 17,000 guri saddex kun waxa laga yaabaa isbedbedel marna soo noqdaan marna ka baxaan inay ku jiraan baa laga yaabaa taas waa qodob xafiisyada dawladda ee magaalada ku yaala
way yaryihiin xafiis dowladood oo aanaan biyo siin magaalada gudaheeda laba siyood maanan ku siinaa iminka airportka dee biyo ma gaadhaan laakiin dee biyaha wakaaladu qaata airportka dee booyad baa u dhaamisay airportku iska leeyahy soo maad garan marka geed deebla kasoo maybe shiinaha kasoo qaatay 10 kilomitir magaalada dusheeda taasi waa qodob marka xafiisyada dowladda badankooda biyo ka helaan dadka ugu lacag bixinta wanaagsanna waxaa ka mid ah ciidamada qaranka ee kala duwan oon runtii u mahadnaqayo hay'adaha ku jirto wasaaradda diinta iyo qaafta madaxtooyada runtii waa la qabsadeen imika wakaaladuna runtii daway ku daba joogtaa taasina waa qodob midna ku darsada xisaabto biyaha Hargeysa soo saarkoodu waa ka culays badan biyo kale dalka waay because Geedebla waa 30 kilo waa 20 kilomitir laakiin 300 mitir ka badan baa biyaha kor loo soo qaadaa oo buur de baa la saaray 300 mitir oo biyaha kor loo qaadayo de waa engineerku waa qiyaasi karaa waa qiyaasi karaa pumping capacity-ga energy-ga ku baxaysa lacag badan baa ku baxaysa runtii taasina waa qodob lacagta mashruuca biyaha Hargeysa lacagta ma ka qadan xafiisyada dowladda badankoodu iska bixiyaan meelaan ma ay ku habsantaa oo jirta laakiin runtii xafiisyada dowladda waan u mahadnaqayaa bididooda wax tabasho wax tabasho badan oo ka jirta ma jirto mala xilban maadaama dee warbaahinta kaliso taa waxa fiican ma jiro iminka oo kale hay'adaha xarumaha ay ka mas'uulka yihiin aan lacag ka iman jirin dee dowladda hoose ka mid ah ee Hargeysa Soomaaliya garan laakiin iminka waa ka maamul cusub yimid isbedel ka dhacay waxaan filaynaa inay hagaagto insha Allah may waxaan filaynaa wax badan oo khayran ka filaynaa insha Allah may wali cusub inda iminka ma wali hawshu bilaabay sanadkii cusbaana may man ku rajoweynaa waana hagaagto runtii shaqadeeda waan aragnay oo maayarka waxaan ku bogaadinaynaa ay kala ta shaqada uu ka qabtay dooxa Hargeysa oo runtii haday nadaafadiisa ilaalino biyaha laga soo saari doono marka maayarka iyo golihiisa arinta iyo arrimaha kale caasimada ka bilaabeen baan ku hambalyeynaa taas oo qodob xilligan lacagta mashruuca biyaha Hargeysa axmed suuqaygiisa lacagta mashruuca biyaha Hargeysa saan sheegay marka dibadda laga joogo waa mashruuci biyaha waa hal mashruuc asan loo sheegay marka laga hadlayo lacagta mashruuca biyaha Hargeysa waa hal mashruuc laakiin gudihiisa marka la soo galo waa mashaariic kala duwan oo maxaana kala waqtiga kala lahaa dhinacyo kala duwan horumarinta naga taageera sida midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland ku aad u kala duwan runtii waqtiyo kala duwan la ciidiyo kala duwana marka waxaan filanaa mashruucaasi waxa weeyaan lacag u dhaxaysa waayo imika waxyaabaha qaar baan ilaa hadda fulino lacagtoodii maqan tahay wuxuu ku kacayaa ilaa cotton ilaa 60 milyan buu noqonayaa exactly waxay noqonaysaa in ka daba tagno isku wada geeyayno ilaa 60 milyan waa qodob su'aasha maskaxdayda ku jirtay waa intaan ayna sanduuqa horumarinta Soomaaliland midowga adduunka midowga waddanka Jarmalka excellent Coca-Cola KFW imaaraadka carabta dowladda Soomaaliland Coca-Cola Foundation waad mahadsantahay gudoomiye Jarmalku maxaan u jeedaa banka adduunka waxba kuma laha mashruuca biyaha Hargeysa waxba kuma laha marar de mashaariic yar yar oo capacity building tababariyo way jireen mashruuca biyaha kuma jiraan way ka duwanta mashruuca biyaha imaaraadkuna kuma jiro mashruucan biyaha kala hadlayo oo qod wax shaqo ku leeyahay ma jirto waxa weeyaan waa midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland 48 milyan Soomaali exactly 48 waa ka takaasashay waxa weeyaan waa midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland dowladda Jarmalka oo ay wakiil ka tahay KFW banka horumarinta Soomaaliland iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa afartaas iyo shirkadda Coca-Cola Coca-Cola Africa Foundation waa shantaas lacagtuna waa taayimka inuu isku geeyeen waa excellent marka excellent 40.6 million taawad ku mahadsantahay horta taasna waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad boqolkiiba miisaanka ka hirgalay 163 kilomitir baa ay magaalada la dhigay waad ku mahadsantahay waa sax weey mid horta mashruuca magaaladu xilliban ma ahayn oo kala tabeeb waxa ku jira 4 barkadood
waxaa ku jiro kale maxaan idhaahdaa waxaa jiro kale 4 barkadood oo hore Coca-Cola ay u dhistay shirkadda Coca-Cola laga dhisay iyo 62 kilomitir oo hore loo dhigay marka intaas waa intii hore u qabsoonto April 2017 bay bilaabantay 2 sano meelahana waa socotay waa 62 kilomitir iyo 4 kaydoo yar yar taana waa ii haysaan waa qodob marka boqolkiiba 163 kilomitir waa 3 nooc xilliban waana beebabka waana kala muhiimsan yihiin saddexda nooc ee beebabka mid waa ka 4 barkadood isku xidhay waa beebka ugu muhiimsan ee 4 barkadood magaalada biyaha u kala qaadaya waa 10.4 13.4 kilomitir amba 13.4 baadham ayay weeyay guud ahaan waxa dhamaaday 13.1 waana beebkii weynaa waxa ka harsan 300 mitir waxaan ahayn ayaa waxa beebka biyaha magaalada lagu qaybinayo wuxuu ahaa 114 kilomitir waxa uu haray 6 kilomitir baa يعني 108 baa dhamaaday 108 kilomitir ayaa dhamaaday 62 Coca-Cola ku shaqa horaan u xidhnay marka 6 baa haray beebka yar la ilaa kiistooyinka dhowr iyo 30 baad ayuu kilomitir buu ahaa wana beeb runtii shaqo ahaan fudud oo aad u yar yar beebka yar yar haafinjiga xasan kaalmahan biyaha tagaya waa dhowr iyo 30 kilomitir kaas 15 point something baa dhamaaday isagana ilaa 50% ayaa hadhay laakiin beebabka muhiimku waa beebka barkadaha isku xidhay 4 barkadood oo 13.4 oo 13.1 ka dhamaatay iyo 114 kilomitir qaybinta magaalada qaabilsan barkada ka soo bilaabmaya guryaha tagaya waxa kaana dhamaaday waa 108 waa 108 kilomitir ma garanaysa xalwan way ku kala qaybsan marka duuduub baan kugu sheegay marka barkadaha magaalada barkada magaalada dhexda waa barkada weyn ee sheedaha ku taala waa dhamaatay markaan kule waa dhamaaday waxa structure-kii sagbada ahaa uu dhamaaday shaqooyinkaas waxay beebabka xididoodii tijaabadoodii laakiin structure-kii dadismuhu waa dhamaaday kaas waa qodob tagacan libaaxna waa dhamaatay ta maxamuud haybana daboolkii sare un baa hadhan waa filano isaga in dhawaan la shubo ta axmed dagaxna waa talaka ku qoran 50% reservoir ay ku qoran tahay ayaa dhamaatay marka mashruucaas aad arkasaan isagoo runtii xilligii rasmiga ahaa uu bilaabmay covid-ku ku soo beegmay oo kontaraagiis mashruucan wuxuu bilaabmay 2019 manuu bilaabmin 15 mu bilaabmin waa 2019 covid-ka ku dhacay laakiin waxaan ku qasabnay shirkadii maamulisay iyo hay'adihii ka shaqeynayay inaan shaqadaas istaagi karin maadaama Soomaaliland laga shaqeynay siyaasadda dawladdu ay tahay shaqooyinka muhiimka ah in la sii wado wakaaladda go'aanka iska lahayd waana hirgashay alxamdulillaah halkan ba muu soo gaadhay taasuna waa qodob taas waxay ahayd xilbaan su'aashaada waxay ahayd waxaan filayaa markaa inuu noqonayo duuduub haddii la isku daro mashruuca haddii duuduub isku darno oo macshaqooyinka kioskiska minorka yar haddii la isku daro 70% ka badan baa dhamaaday ha mashruuca magaalada gudihiisa mashruuca weyn ah runtii oo xil waqtigii uu soconayna covid uu badidiisu inahay taasina waa qodobka waa su'aashaada saddexaad bay ahayd lacagta fixed-ka ah dadka aan ka qaadno horta xillibaana waa mid wakaaladda biyaha waxay bixisaa waa adeeg mas'uuliyadeeduna ma aha guriga ay biyaha soo kala hata mas'uuliyadda wakaaladdu ninka aan biyaha helin iyo ninka biyaha helaba mas'uuliyad baa ka saaran ee Hargeysa ku nool maadaama ay awoodda sharciga ku aasaasan tahay magaalada Hargeysa taa marka laga duulayo hadaba midna biyihii baanu siinaa qasabadii baanu keenaa ka aan biyaha helin maxaanu qabanaa waa su'aal horta waa su'aal waayo hay'ad marka laga jawaabayo ay tamiro gaar ah hadii la qaato macna badan sameyn mayso waxa weeyaan lacagta fixed-ka waxaanu ka qaadnaa horta waa gurigii 5 mitir cubic yar laakiin siyaasaddu maxay tahay adigu gurigaaga 2 bilood baad ka maqnayd dadka been gareynaysa xilliban halka waxaad ka ilduuftood ka maqnayd amba aan xoogaal u ahayn siyaasadda wakaaladda u taala maxay tahay marka guri macmiil uu muddo ka maqnaanayo siyaasaddu waxa weeyaan macmiilku inuu yimaado wakaaladda uu ogeysiiyo walaal gurigayga muddo ka maqnaanaya si ku meel gaara biyaha laga xidho way operation-kiga ka uu socdaa inankii gurigii maalin kasta uu imanaya ka shaqeynayay waa qodob beebkii markasta aan ka warhaynaa waan dayactiranaa su'aashaad xagga dambe ku jirtaa ku wadixin doonaa laakiin ma kornaa ma kusiisana waa qodob hawsheeda anka ma istaagin marka qofka muwaadinka markuu noo yimaado yaa gurigii muddo ka maqnaanaya ha laga xidho si ku meel gaara waa ka xidhaa waxa lacag oo lagu soo dalcay laana ma jirin laakiin waxa filaya xagga ay ka maqan tahay waxa weeyaan xaggii aanad ogeyn maxaan idhaahdaa siyaasadda wakaaladda uga taala hawshaas taasina waa qodob kale haddaba halkan waxaan ku xusay dadka reer Hargeysa biyaha naga helin ururka boolada caasimadda oo asaaskii wakaaladdu ay ku lahayd door weyn waan kabnaa mudane gudoomiye maxaan ku kabnaa waxaan bixinaa 5% cashuurtooda marista ilaa 300 booyadood
boqolkiiba 25 cashuurtooda wada marista ilaa 300 oo booydood oo magaalada u dhaamiya ururkaasna cid si dhow la shaqeysa oo wakaalada biyaha Hargeysa duruufahooda la socota waanu kabnaha 6 bilood waa ururka iskaashatada booyadleyda caasimadda Hargeysa oo qolooyinka idin soo dhaamiya xiriir baan leenahay iskaashatii leeyihiin boqolkiiba 25 cashuurtooda wada marista wakaalada bixisa boqolkiiba 25 dawladda bixisa dawladda hoose Hargeysa ayaa bixisa marka boqolkiiba 50 laba jeer ba sanadkii gaadiidka la cashuuraa Soomaa labada jeer ilaa 300 oo booydood boqolkiiba 50 wakaalada biyaha iyo dawladda hoose Hargeysa bixisa taasi waa qodob taasi waa qodob shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa deewaan kule wuxuu baaraa systemka qasabada wakaalada waxa kale uu baaraa ceelasha gaarka loo leeyahay ceelkii wax lagu arko dawaanu daweyn hadaan la daweyn kareyna joojiye baan lagu soo dhaaf shaybaarkaasi lacag uu isagu isku daboolo ma soo saaro khubaro badan oo muwaadiniin oo ka shaqeeya shaybaarkana wakaalada kabta umana shaqeeyo reer Hargeysa kale bal dalka oo dhan maanta u shaqeeya oo kuwa dalalkii shaarka noo haba عادي بيكن طبعا نوع من التعسوا قدر marka operationkiisii mishiinadiisu waa qaali waxa de wakaalada qoskaana dhab saddex maxaan kaloon sameeynaa xilban waxa kaloon sameeynaa imika aanu sameeynaayo waliba dhismaha wadada tagsa Geedeble wakaaladu waa toota wadada Geedeble Hargeysa wakaalada biyo waa tadhisaysa 12 kilomitir ba carka wanaagsan la dhigay markii hore waa ku adkeyd booyadaha biyo inay tagaan halka wadooyin ka dhowda deegaanadan kale ka soo dhaamiyaan Geedeble waa ka dhowda imika laakiin maalintii ugu yaraan 3 ilaa 40 booyadood baa taga koska wadada lagu dhisay wakaalada biyaha number 1 oo bulldozer D19 idii sheegayo damaantu inta soo fasta shidaal isticmaalaysa hay'adda kale ee dawladda D9 haystaan wakaalada ay tahay waxa weeyaan wadada waxa lagu dhisay kharashka wakaalada biyaha Hargeysa iyadoo taageero ka helaysa hay'adda horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland RDA maanta booyadaha Hargeysa u dhaamiya qayb badan oo kamid ah waa tagaan oo culayskii saarnaa deegaanada bariga iyo galbeedka ee biyaha laga soo dhaamin jiray waa jabay lacagta ceelka wakaalada laga qaadana waa ka jaban yahay ceelkaas taasina waa qodob xildhibaan kaama dhexgelinayna waqtigaysay adoo aad raaliya si fiican baan ku dhageysanaa oo dhageysan insha Allah taas waa qodob imika xilligan ay dhaceen sixir bararka ee adduunka ka dhacay Soomaaliland kala kama dhacayna ay isbedelaan maciishadii COVID-ka runtii uu qayb ka yahay xiisadaha adduunka jiraana qayb ka yahayna ceel labaad baan u xidhnay booyada maadaama ceelashii private-ka laftoodu ay qaaliyeen baash taas waa su'aasha labaad maxana su'aasha weydiiyay xildhibaanku ee kale su'aasha lacagta fixed-ka ka jawaabay waa sax laba su'aaloodna waa isku qabanayeen xildhibaano guri 1 mitir cubic aad tusto biilkiisa aad haysato tan kalena waxaad ugu lacagta fixed-ka marka siyaasad ahaan wixii 5 mitir cubic ka yar de 5 mitir cubic baan ka qaadnaa wakaaladuna waa inay culeysyo badan oo ay de contribution ku sameeyso public waa jiraan xildhibaan waa qodob shaqaalaha wakaalada biyaha Hargeysa shaqaalaha iyaga waxaan ku shaqaalaysiinaa siyaasad cadna waa lagu eriyaa iyadoo la raacayo xeerarkii daraafka ahaa ee hay'adda shaqaalaha ee jiray iyadoo la raacayo taasan waxaan kaloon siinaa qofka shaqaalaha laga eriyo xaqiisana waa la siiyaa oo qaabkan xaqa u siino iyo qaabka loo calculate gareeyo diyaar baan idin xildhibaan oo imanaysan oo arki doontaan taasina waa qodob mas'uuliyad baan naga saaran qofka muwaadinka ah ما garanaysa mas'uuliyad baana naga saaran qofka muwaadinka ah deemanku mas'uuliyiin baan nahay mas'uuliyadda hay'adda inta laga baan haynaa marka qof muwaadina mas'uuliyadiisa deegaanka aanu aakhirada ilaahay aanu fiicnayn inaan galno SDF waxaan runtii uga mahadnaqayaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF oo taageeraan dawladaha waaweyn ee saaxiibka koobaad la dawladda Soomaaliland dawladda Ingiriiska xafiiskeeda Foreign and Commonwealth Development Office markii hore noo DFI ay hay'adda horumarinta caalamiga u qaabilsan dawladda Ingiriiska dawladaha qaybta ka sida dawladda Holland Denmark iyo Norway markii hore ku jirtay mar dhaxana ka baxay imika ka soo noqotay waxay qabteen runtii wakaalada biyaha Hargeysa la qabteen hawl muhiim ah oo dabooli doonta baahida dad badan oo reer Hargeysa maxay mashruuc nala qabtay beebka la soo dhigay Geedeble ilaa Hargeysa dhamaantii ma xilliban ku dhameystiro muhiimadu waxa weeyaan wixii inaad fahanto kulli waa su'aal ku taagan ma andowna issue taagan bay ahayd baan filayaa laakiin taa anigu waxba igama khusayaan waxay la qabteen ma ku sheegay beebka Geedeble ilaa Hargeysa 23 kilomitir iyaga ayaa soo iibiyay beebka sidoo dhan yahay waa koow ceelasha hore haadlay saddex ceelasha hore haadlay qodob lacagtii ku baxday iyaga ayaa bixiyay waa koow waa laba waana dawladahaas lacagta ku timaada sanduuq inagu ayna abuurnayde dawladahaas lacagta ku timaada waa laba hore haadlay maxaan jiraa laas dhowr ceelasha laga qoday saddex ceel sanduuq horumarinta Soomaaliland ba bixiyay waa saddex
qodaalkiisa isku soo xidhka ceelashaasoo iminka ah 12 kilomitir meetan waxa sheegay laas dhowray ilaa 13 kilomitir oo lagu keenay baa xarunta cusubna qandaraaskiisa gacanta lagu imika la sheegay sanduuqa bixinay lacagtiisa waa afar taas iminka qandaraaska gacanta lagu hayaa wali maxay kala qabteen mashruucan magaalada nashqadii ay ku timiday maalgelinta weyn ee inooga timiday dawladda aynu saaxiibada Jarmalka ay mas'uulka uga tahay bangiga horumarinta Jarmalka KfW nashqadii lagu doonay maalgelintu ay ku timiday ee magaalada dhismaynka wanaagsan ee biyo qaybsiga magaalada cadaaladda ka dhigaya baabkii Axmed Dagax geyneen suuqa dhaxaan u sii mareen kii Maxamuud Haybana saasala kii gacan libaxna saasala maalgelinta lacag ilaa $700,000 ahayd waxa bixisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF lacagta marka la isku daro waxa filaya lacag dhowr iyo $10 milyan marka SDF ay gelisay waana runtii mashaariicda midda kale idin sheegay waxa weeyaan mashaariicda infrastructure kaabayaasha biyaha mashruuc kaabe oo weyn oo dalka laga furiyo waxa ugu horeeyay laga bilaabo gudoomiye waxa ugu horeeyay kan biyaha oo dad ka horeeyay ka socda gobolka Saaxil ama Berber corridor iyo DP wall labadaba ka horeeyay mashaariicdan waxay tijaabo u haayeen in Soomaaliland laga shaqeyn karo marka inay yimaadaan oo la bilaabo kalsoonida inta laga helo oo wixii kale ku soo dhiirada runtii mashaariicdan door kale muhiim ah ayay ciyaareen waxaan kaloo kugu darayaa xilliban mashaariicdaas daraasadan idin sheegay in lagu eegay kaydadka biyahana sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF ayaa bixinay daraasadii imka bilaabtay taasna waa dhowr sano marka specifically number ka sax ilaa chargerka waan idin soo iyadoo qoraalana diyaar baan idin hawaad soo gudbin doonaa insha Allah taasna waa qodob mashaariicdaasi dhamaantood si wanaagsan bay u fuleen oo runtii way mashaariicda infrastructure oo dhibaato badan shirkadaha murma contractual issues badan baa soo bax runtii si wanaagsan bay u fuleen waqtiyadoodina waa ku wada dhamaadeen marka waan uga mahadnaqayaa arinta kale weydiisay xilibaan oo Dar es Salaam biyaha wad ka xidhaan beerta madaxweynaha wad u fasaxdeen waa diyaar baan nahay su'aaladan weydiisan hawsha waa jiraan inuu dhawaan dumeelkaasi la dayactireena waa jiraan laakiin ceel gaar oo madaxweynaha ruqsad loo siiyay xilibaan ma jirto hadaad yaaminaysi hadii kaleba taasna waa qodob leerka oo iyaduna su'aashaas un daba socotay beerta madaxweynaha waad siisan leerka waxaanu siinaa waxa weeyaan waa shaqaalaha wakaalada biyaha Hargeysa ee goobta jooga waxaan ognahay qofka shaqaalaha goobta jooga 24 saac buu fadhiistaa mushaharku qaataan oo mushahar xadidan uu qaata waxaana weeyaan maxaan kale waxa kale u raaca waa shaqaalaheegan oo 3 habeenimo hadii loo baahdo waa diyaar mashiinka wax hagaajiya 4 habeenimo hadii loo baahdo waa hagaajiya mashiinka geedebla yaalana waxa uu madaxweyne uga baahan yahay ayaa man horena uga baahnayn imika uga baahan xilliban shaqaalaha iyagu waan siinaa taasna waa qodob kale saacadaha biyaha xilliban waxaan filayaa inaynu ka midaysanahay aragtida hay'adaha dawladdu inay kobac sameeyaan kobaca ay sameeyaan inuu noqdo mid institutionka madax banaanidiisa operationskiisa sidoo ugu madax banaanay markaan ka hadlayo oo interestska danaha gaarka uga madax banaan yahay qaybka waa inaynu ka midaysanahay aragtida hay'adaha dawladdu inay kobac sameeyaan oo kobacaasi xilliban wada la socotaa ma filayaa inay kobac sameeyaan hay'adaha dawladdu kobacaasina uu noqdo mid ay wax iska bedelaan qaabka adeeg u bixinayeen assetiska iyo hantida hay'adda dawladda gacanta ku haysay iyo casriyeyn baa in lagu sameeyo taawayna ka wada soconaa hadaba wakaaladaha biyaha dalka ka jira maanta ma u shaqeeyaan qarnigan aynu joogno iyo sanadka 2021 iyo 2022 si hay'adaha adduunka u shaqeeyaan may waa shaqeeyaan wakaaladaha biyaha maxay miisaan wanaagsan leeyihiin dalka oo dhan ka midaysan waxay miisaan wanaagsan leeyihiin in operationally ay hay'adaha iyagu culayskooda isqaada oo sida problemskan dawladaha hoose ka soo noqda aan lahayn oo meedaan maqal wakaalada biyaha burca laba cisho biyaheedii xidhiin meedaan maqal taboorama meedaan maqal laakiin haddana iyagoo sidaa u wanaagsan runtii warbixintaasina maaha warbixin golayaasheenu ay ka warhayaan wakaalada biyaha Afrika badankoodu waa insolvent isma daboolaanba laakiin wakaaladeen waa operationskooda cidna lama kabo iyagaas wada iyaga mas'uuliyadooda wada taasi waa qodob haddaba operationska inaynu casriyeyno waxay noo diidayaan ma jiro أنا واحد قوام مايا وين العصريين وين كوبع سمايسا institution كان مسؤولية ده ومدحونه وحل سعره كل بعيد دي هجيسة قلاياش قرن كنا وحيانا نوير السنة حكتي ده يدبس على وكوبع مسمينه كوبع عاسي مرة بدت كمودر هالجي اللي يحلبه بدت كمودر هالجي عليس ينوي كينيا المالية ده عليس المالية ده ومواطنين تقار كود كو عدقنا دوا كينيا وطبعا كل جراسنا ساعدها بيها أو رنتي هيركلين مدرر كده مدرر كهر I think سنة كي 2020 أو ميكا hirgelintoodu ay boqolkiiba 50 ay sare u dhaaftay oo magaalada bedidooda laga hirgeliyay xaguu ka yimid marka su'aasha daba socotay kala waxa shirkadda qandaraaska qaadatay maxay tahay xilibaan markaan saa ku leeyahay uma jeedo inuu mas'uulaan waxaan ku sheegay wax
aan hubo waayo waxaan saan ugu qanacsanaa su'aashaada adiguna inaad soo dhaweysaa fiican waxaan ku yaraarkay inaad iri qosliso isla maaray ma wax dib u kaaga haya meeyo xog kaama hayo taraacisa waxa weeyaan xilliban waxa weeye saacadaha cid miyaanu siinay waa maya sidaan ku go'aansanay cilmi baaris baanu sameynay muddo socotay magaalada waxaanu ku xidhnay saacado tijaabo ah oo laga qaabkay u shaqeynayaan si sax wax ma u cabirayaan shaqadii ma fudeeyeen baahi noocaya keentay baahida keentay xilliban waa mid haysata shaqaalaha wakaalada biyaha iyo macaamiisha laftooda waxaan ku ballan qaadayaa haddii aad timaanto 7 subaxnimo inaad heli doonto maamulka wakaalada biyaha sidoo u dhan yahay iyo badiba shaqaalaha wakaalada biyaha ka helaysa xarunta biyaha Hargeysa xaruntan jaarkiin idin jirta 200 mitir haddana iyadoo taasi jirto shaqaalaha wakaalada biyaha si buuxda u shaqeeyaan cabashada macaamiilku waa taagneed mushkiladu maxay ahayd mushkiladu waxay idinka loo dhiibay guriga 2000 ee saacadood midlan 500 saacadood soo qor lagu yiri 500 guri waa nin dhalinyara waxa laga yaabaa marka qaar inuu daalo marka qaar waxa laga yaabaa guriga xidhan inuu tago oo muwaadiniintii lahayd laakiin marka qaar waxa laga yaabaa rabshad dhalinyarta guriga joogta inay iskhilaafaan oo gacan ba loo qaado in badan bay nagu dhacdo qof shaqaalo ay lagu diro ay soo qaniinay qof shaqaalo dhibaato loo geysto dhiig ka socdo iyo qaarinta guriga lagu xidhay la garaacay in badan bay nagu dhacday markaas si looga saaro cabashada muwaadinka ee ah inuu xilliga guriga kusoo maqnaa inuu ka maqnaa culayskii inanka haystay ee ahaa guri kasta inuu ku bixiyo 20 daqiiqo garaaco waa hebel waa inanka wakaalada biyaha si cabashada loo saaro loona fududeeyo shaqada inanka si kor loogu qaadayo tayada shaqada uu hayo xilliban waxa weeyaan waxay wakaaladu diristay baahida inay kaga bixi karto iyadoo ka faa'iideysanaysa nidaamka tiknoolajiyada casriga oo ay keento smart metering system wax la wakaaladaha adduunku ay ku shaqeeyaan qolooyinkiina dhooftay wada ogtiin deyn kugu soo garaacay ma jirto biilkaaga automatic buu kugu imanay iyo inta nidaamka adduunka ka socda loo dhawaado waxa kale oo ila qarsantiin si aan rajaynayo hay'adaheenu inaanay ku socon karin oo lacag yar oo cid ugu taaqdo oo waqtiga qaadanaysa aan dheer yahay sidii loo baahnaana u fuleen ee loo baahan mas'uuliyadeen inaynu ku xeena isku ceeshano waana ogsoontiin si u xadidan tahay miisaaniyadda qaranka iyo deydinkaaba guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo iga xoogaysan arrintaas iyadoo laga duulay waxay go'aansatay wakaaladu waa sidee ugu suuragalsan ee barnaamijka muhiimka ah loona baahan yahay inuu hormood u noqdo hay'adaha biyaha ee dalka si loo hirgeliyo arrintaas waa ta keentay in barnaamijkan hirgelino cid miyaanu qandaraas ku siinay waa maya cid qandaraas miyaanu ku siinay waa maya waxaan u yareynay hawshaas in sidii loo baahnaana ay u fusho cidna waxaad ogtihiin hay'ad kasta xogteeda asaasiga imika wakaalada biyaha waa billing systemkeeda waa nidaamkan saacadaha ay ka soo qorto xogtaa systemka weyn hay'adda nolosheedu waa intaa haddii intaa cid private ay gacanta soo geliso hay'adaas way wiiqmaysaa oo xogteedii waxay noqonaysaa hay'ad cid private xogtii muhiimka hay'adda dawladdu lahayd inay cid private ka taamanaan sameyn cidna kuma naan snuujin cidna qandaraas kuma naan siin xilwan wakaalada biyaha gacanta ku haysa account-ka wakaalada biyaha banka dhexe iyo bangiga sii marinayso iyo bangiga kamaniga Talyaaniga warshada Talyaaniga laga soo iibiyo dilaal cid u dhaxaysa ma jirto taasina waa siyaasada anagoo ka fikirana mustaqbalka wakaalada aanu qaadan waana ku mahadsantahay xilwan su'aasha inaad weydiiso biyaha waa jirtaan beebka weyn xilwan beeb weyn oo jarnoon wada dadka iska bixiya ma jiro beebka yaryar waa laga yaabaa xaafadaha tagaya waa mas'uuliyadda xaafadaha waxa looga baahan yahay dadka wacigooda waa in la dhisaa waxa looga baahan yahay xilligu beeb jabo soo sheegaan shaqaalaha iyagu waa heegan saddexda habeenimo haddaad u baahato way ku imanayaan excellent afartan xaafadood anoo ka jiro ayaa daloshamay beeb weyn ama yaro aan beeb waxa saa doontaan noqon xilliban handhameeyo diyaar baan ku hay waxa la lixi su'aala waqtigaan oo siinaya maanta leena wada fadhiyana aan ku dhameystiro beeb weyn oo wakaaladu ay tiraahdo lacagtiisa soo bixiya ma jirto haddana ay tiraa ku celintiisa soo bixiya in adeero ma jirto waa qodob beebabka xaafadaha taga beebabka dadku xamaalkan oo iska bixiya farsamayaqaankan oo taga laakiin beebka iyaga soo iibsa waayo wakaaladu stock beeb ay leedahay dee ma jirto ay ku dayactirtaa kharashkana kuma idara adduunka waa lagu daraada kharash ay ku dartay systemkeeda biyuna ma jiro xilliban ya beebabka yaryar ee wakaalada taga beebka lagu dhaha 3 inch 4 inch 2 inch ma kuwaas guryaha mid kuwa weyn kuwa waa mas'uuliyadda wakaalada half inchiga laakiin guryaha taga mas'uuliyadda dadka weyn taas waa siyaasad cad oo wakaaladu leedahay mas'uuliyadda iyaga iska leh taasina waa qodob kale markaan taa ka hadlay xilliban way jirtaa waxaad igu tiri anaa soo duubay waa run waan kaaga garaabaya iminka haddaad baxdo dhul badan oo biyo liigayaan waa laga yaabaa inaad aragto laakiin maxay tahay mushkiladu beebkan magaalada ku waraabinaana waa duugoobeen waa kuwaanu bedelayna iminka waa qodobka labaad ee jira muxuu yahay dawlad Hargeysa systemkeeda iyo qorshe magaaleedkeedana dee kaaga warramay xilliban Hargeysad ku noosha oo waxa laga yaabaa beebkuba inuu ku jiro wadada gaarigu maray
taasna mid aan kaaga warramayo maaha waad soo helaysaa imikaad boqolaal soo heli haddaad laga yaaba inaad soo hesho laakiin waxaan kuu ballan qaadaya shaqaale heegana waan leenahay kuwa biiqaybintaan leenahay xilligay soo ogaadaan waa ku dhaqaaqaan xilligay doontaa jimce iyo ciidna shaqaalahaas way shaqeeyaan waa qodob mushaharka qaranka xildhibaan mushahar qaran oo laga bixiyo wakaaladu ma jirto mushaharka qarankaa tiri maxay u qaataan taasaad ku dhex dartay may ku jirta aan kala arifi karaayo macnaha iyagoo mushahar qaata mushahar qaran baa tira xaafadii beebka u hagaajinayaan maxay lacagta uga qaataan xaafadii excellent good lacagta ku celinteed sheegtay 50 kuna goormaanu sameynaa xildhibaan goormaanu sameynaa dee su-aashaan ku weydiiyay anaa ku weydiinaya waataan kaaga jawaabayo goormaanu sameynaa waataan u baahannahay goortaanu sameynaa waxa weeye biilka aan gurigaaga kugu keenay xaggiisa hoose waxa ku qoran miyaad weli akhriday xildhibaan miyaad akhriday wala macmiil baa tahay muwaadin oo ka isticmaalee maxaa ku qoran oo imsa cishaa xildhibaan I don't know haddaba xildhibaan waxaan kaa codsanayaa intaanad su-aashan jawaabteeda biilka ka qoran tahay inaad akhrido inaan xildhibaan xildhibaan biilkan kuu keeno hoostiisa waxaa ku qoran muddo 2 wiiga fadlan muwaadin ku soo bixi lacagta biilka waa kow taa haddaad ogsoonta xildhibaan taasaa u ah shart inankaygu labada muu ku joogaa taasoo kalaata may intaasoo jeeroo kale u tagaayo fadlan iska soo bixi biilkii biyaha marka dhowr jeer lagu noqdo ayaa waxay keensataa in biyaha la jaro biyaha marka la jaro kotonka kuna ku celinta waa laga qaado qofkii muwaadin aan qaadi karayna waa laga dhaafaa taa waan u eegnaa duruufta dadka taasina waa qodob kale ganaaxana aan kuu sharaxay xildhibaan kotonka kun meewa kharashka ku celinta waayo waxaa laga yaabaa shaqaale dheeraada loo diraya eeg xildhibaan ganaaxana day weydiye xaq baad u leedahay su-aalaha kale kugu dar kotonka kun waxa weeyaan iminka markuu waktigii aad dhaafto ay kugu raagtay biyo ee intaasoo jeer lagugu yimaado xildhibaan kuu sharaxaya ayaa la jaraya hadhow marka qasabadii lagu celinay dib saacadaadii loogu soo celinayo waxa loo baahan yahay kotonka kun iska bixiso soomaad garan may ganaax ma ganaax ula socodkan waa kharashka ku celinta la yiraahdo wakaalada biyo adduunka dad xogtooda yar doontan xildhibaan jabuutidan dhow tago imise kharash baa laga qaadaa bal taas yar bar xildhibaan ku sheego taasna waa qodob xildhibaan waxaan kaloo jecelahay inaan kugu daro saacadaha waxaan filaya su-aashaadii ahayd saacadaha wad qaadataan saacadaha horta iminka saacadahan bedelaynay ee koobaad waxay ahayn saacadaha magaalada een shaqaynin cilad ahaan u fadhiya waanay badayihiin waana dhowr kuna saacadood saacadda marka maxaan u bedelnaa saacadda anaku mana sii iibino cid kalena kuma caawino store aan leenahay ku bixin waayo saacadaha waxaan diidnaa in si khaldan loo adeegsado waayo macmiilka waxa uga baahan yahay saacad ayaama jirinba ninka ku adkaystay saacaddeeda aan u baahnayna waan siinaa laakiin xogtaa haddii hadhow raaraac loo baahdo oo kombiyuutarka wax ku dhacaan ayaa loo hayaa stockgayguna wuu yaalaa cid alaali cid u baahan saacad xumaatayna dee ma jirto warshado dib wax u habeeyaba ma lihin xildhibaan hortaana xisaabta ku darso waa kow xildhibaan waxaad weydiisay goorma ayay reer hargeysa biyo helayaan ugu dambeyn xildhibaan haddii maanta aad doontood hesho maxamed aadood alle xilligaasaad biyo cabaysaan warbaahinta gal soo baadh iikaan horta dhegeyso ballanqaadaan sameeyey ma jirto laakiin shacabka reer hargeysa iyo hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh ee golahani ka midka waxaan u sheegaa war mashruuca timelinekiisu waa sida waktigaasuu bilaabmay waktigaasaa la filaya inuu ku dhammaado laakiin goormu hirgelya xildhibaan haga ذلك دماغه waxay isku yihiin waa hawl kamid ah hawlihii ay mas'uuliyaddu idinka saarnay anaga idinka ayaanada maarey suulinka warbixin kooban oo barista shaqada oo kooban cadaalad waxyaabaha idin shaqada waxyaabaha idin qabsoomay insha Allah المقصود حلوات ميكروفونات كلهم نص اوكي ما اوكي واضح سام صدق نعم عاد كنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ومهدسيهين قدida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo sidii dastuurka waajibinayay noogu yeedhay inaan xog waran iyo iswaraysi ugu nimaadno xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland
iyadoo guddida runtii gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland faray iyaga iyo annaga oo ah mid ka mid ah hay-adaha dowladda jamhuuriyadda somaliland. kulankani waa kulankii saddexaad aan la qaadano golaha cusub. guddidii koowaad ee guddida deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah waxaan la kulannay September, waxaanan filaynaa inaan waxayn hay-adihii dowladda ee ugu horeeyay la kulma guddiyada golaha wakiilada. guddidii labaadna waxaan la kulannay September sanadkii hore, sanadkii marka dhamaaday. guddidii labaadna waxaan la kulannay November oo ah guddida dhaqaalaha. guddina waa guddidii saddexaad, maanta oo bishu tahay 17 bisha labaad sanadka 2022 maalinkan kulanka ku nimid sida caadada ahayd. waxaanu ku faraxsanahay inaanu halkan idin joogno. intaana warbixinta idin bilaabin guddoomiye waxaan jeclaan lahaa inaan isbarasho kooban xaggayga samayno. anigu waxaan ahay maareey wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. ninka igu xiga waa Cabdulle Sacad Muuse, waa khabiir cilmiga geologiga oo khabarada ka hawlgasha mashaariicda biyaha. Axmed Muuse Daahir baa ku xiga. Cabdulle waa ninkan. Axmed Muuse Daahir baa ku xiga, isaguna waa khabiir cilmiga geologiga bartay maamulka mashaariicda, waana agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta wakaalada biyaha Hargeysa. Maxamed Faarax Jaad waa injineer ilaa 1970 kasoo shaqeynayay maxaan idhaahdaa ingiriiskii halkan Somaliland injineerada waaweyn wakaalada biyaha. waxaa ku xiga Mustafa Dr. oo khabarada shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa iyo ninka maamulkiisa gacanta ku haya maanta Dr. Axmed Xuseen Ciise dabcan oo bartay naga maqan safar dibadda ku maqan. Barkhad Cabdiraxmaan Xaashi cilmiga IT-gu bartay, waa agaasimaha waaxda IT-ga. marka waa xildhibaanada dabcan oo wada garanaysaan. Mustafa Khayr ayaa guddoomiyaha guddiga ah. waad ku mahadsantahay guddoomiye soo dhaweynta noo samaysay. haddii hawsheena aan bilaabano wakaalada biyaha Hargeysa oo hay-adda qaranka u xil saaran adeegga biyaha ee caasimadda jamhuuriyadda Somaliland, oo runtii ah mid ka mid ah hay-adaha waaweyn ee dalka, waxay gacanta ku haysaa hawlo kala duwan. hawlaheeda caadiga ama operationskeeda caadiga ah mid noqonayo, midna iyo wixii laga bedelayo, midna ay noqonayso mashaariicda wax laga bedelayo adeegga biyaha ee magaalada Hargeysa. wakaalada biyaha Hargeysa runtii oo ah xarumo shaqo ku leh deegaamo kala duwan oo ugu weyn tahay deegaanka degmada Daar es Salaam iyo caasimadda gudaheeda iyo deegaano bariga ay ku jiraanba. hawlaha ay hayso waa kuwo u socda si habsami ah. haddii aynu ku bilowno maxaa ka socda wakaalada biyaha Hargeysa, mid waa mashruuca biyaha, mid waxa weeye horumarinta lagu sameeyay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo iminka ah mid dalka oo dhan laga isticmaalo gobolada kala duwan ee Somaliland, laga isticmaalo wadamada inala jaarka ah ay ka mid tahay Soomaaliya, oo lagu baaro biyihii dibadda ay u diri jireen Soomaaliya laftooda ay dalkeena keenaan. Soomaaliland biyihii dalka dibaddiisa loo diri jiray halkan lagu baaro. laga bilaabo ka yimaadaan baaritaanada dhammaan gobolada jamhuuriyadda Somaliland iyo waddanka inala jaarka ee Soomaaliya, gobolo kala duwan ee Muqdisho iyo Garowe iyo meelo kala duwan ay ka mid tahay ilaa Dhuusamara ay si joogto ah u yimaadaan. taasina ay hirgelisay shaybaarka oo xarun si buuxda u qalabaysan. haddii idinka leeyahay dadkii khabarada ahaa ee aqoonta u lahaa fiilka ugu aqoonta badnaa dalkuna ay ka shaqeeyaan oo fuliyeyna runtii laba cilmi baadhisood oo kala duwan. midna lagu eegay biyaha magaalada lagu isticmaalo, ma aha biyaha qasabada oo kalaata, biyaha booyaduhu magaalada soo dhaamiyaan ee magaalada hareeraheeda ah, deegaanada bariga, waqooyiga iyo maxaan idhaahdaa galbeedka iyo koonfurta Hargeysa laga keenaba 40 ceel oo ku yaala oo kuwa ugu badan ee booyaduhu ka soo dhaamiyaan baaritaan lagu sameeyay. daraasadda hore ahayd la baaray kaydadka hodheelada waaweyn, saambalo laga soo qaado la baaray kaydadka guryaha, la baaray booyadaha laftooda, midna waa ceelka iyo source iyo ishiya, midna booyadii soo qaadaysa laftiisa. waa cilmi baarista hore oo sanadkii dhamaaday la soo bandhigay bilowgiisii. midna waxay ahayd cilmi baarista labaad ee lagu eegayay tayada biyaha warshadaysan ee waddanka magaalada Hargeysa lagu isticmaalo. marka dabcan biyaha waddanka laga soo saaraa oo dhan waxay yimaadaan Hargeysa maadaama caasimadda tahay meesha suuqa ugu ballaaran ka jiraya. cilmi baaris lagu sameeyay iyadana waxyaabihii ka soo baxayna bulshada iyo hay'adaha dawladda ku shaqada leh lala wadaagay. midna waxa weeye casriyeynta adeegga wakaaladu gacanta ku haysa ee shaqadeeda. waayo waxa weeye adduunkan aynu joognaa shalay iyo maanta isku meel ma taagna. way isbedelayaan qaabka adeegyada loo bixiyo, hadday noqoto dhinac walba, hadday noqoto adeegyada biyo. marka adeegyada casriyeynta oo badankooda ka socdaan waaxda IT-ga
iyaguna runtii waa tallaabooyin waxa lagu dhiiriday wax ka bedeli kara wakaaladda biyaha Hargeysa kana mid dhigay inay noqoto qaabka adeeg bixinta kuwa ugu horeeya gobolka maanta aynu ku noolahay ma aha gobolka waxaan ka hadlayaa Geeska Afrika mid waxa weeye wakaaladaheena biyuhu waa inay dhaafaan marxaladda ah in ay shaqadeedu tahay qasabada la soo furo ceelkooda mid marka gubato la dayactiro iyo biilkoo la soo xareeyo oo maxaa lagu kordhinayaa waxaan ogsoonahay deeqaha dibaddu sanadba sanad ka dambeeya inay sii gabaabsi noqonayaan waxaan ogsoonahay dawladdu wax bixin jiray in attitudeska ama waaqifta kuwa jahandalkooda cashuurihii dibadda maxaa deeqihii dibadda la siinay si yaraanayso iyadoo taa laga duulayo waa in hay'adaha dawladdu ay sameeyaan horumarintaas oo ah waxna waa wixii waajibka ahaa adeegga asaasiga waxna waa wax lagu daro shaqadii iyo maxaan raahdaa awoodii institution iyadoo taa laga duulayo waxay wakaaladdu hirgelisay xarunta maareynta biyaha hoose iyo bixiraanada oo loo aasaasay number 1 runtii xaruntaas oo compoundkeedii iyo qalabkeedii iyo cususlaa iyo qalabkii cilmi baaristuba badi gacanta ku haysa runtii qalab aad u qiimo badan oo imika ah mid ka mid ah qalabada ugu wanaagsan ee dalka yaala marka loo eego hay'adaha dawladda qalab ku hay ay gacanta ku hayso sanadkii dhaweyd bishii Decemberna xariga laga jaray hadduu idinkeeda leeyahay xarunta waxaan ugu talagalnay in ay la socoto xaaladaha biyaha ee kaydka hoose way adduunka in badan baynu wararka ka maqalnaa magaalo weyn oo biyaheedii ceelasheedii go'aan amba la leeyahay bilka dib ay go'ayaan waa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa laga yaabaa wararka inaad ka maqlayseen magaalooyin waddanka India ku yaala South Africa qaar ku yaala oo gaadhay marxalad ciidamadii biyihii raayharsanaa rationing ku sameeyaan ayagu intay queue galaan ay qaybiyaan marka si taa looga fogaado waa inaan ogsoon karnaa kaydadkan hoose inuu Hargeysa imika ku tiirsan tahay doonayna shacabka badan ee nimanka biyaha keenay wakaaladda biyaha Hargeysa inaynu baahidooda ka daboolno xaaladoodu maxay tahay imise sanayna wadayaan sidee baynu u kordhin karnaa kaydadkaas waa xarunta maareynta biyaha hoose biyaha xidhanada bishii December sanadka laga jaro waa xarunta labaad ee wakaaladdu hirgelisay marka lagu daro shaybaarka taafraadna xoogan mashaariicda biyaha Hargeysa oo ah mashruuc dhinacna lagu cusboonaysiinayo adeegii jiray oo adeega jiray biyaha baybabkii iyo barkadii hore u jiray waxa la aasaasay 1900 bilowgii 70-nadii waana duugoobeen muddooyinkii dacalaaduhu jireen dalka laga maqnaa mid horta waa in kuwa la cusboonaysiiyo la bedelo adeegaas midna waxa weeyaan adeegga laftiisii in la fidiyo oo sida loo fidinaya dadkii inta ay dabooli jirtay wakaaladda biyaha Hargeysa lagu daro dad kale baahidoodii la daboolo caasimadda ka tirsan marka taa laga hadlayo taasna runtii waxay mashaariic waa hal mashruuc inaku markaan dibadda ka joogno waa mashruuca biyaha Hargeysa laakiin gudaha markaan ka joogno waa mashaariic kala duwan waxay nagala shaqeeyay dawladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta oo amba saaxiibada Soomaaliland dhinaca horumarinta ay ka mid yihiin midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF dawladda Jarmalka amba waxa loo yaqaan German Development Corporation amba KfW banka horumarinta Jarmalka shirkado gaar ah ku jira shirkadda Coca-Cola Africa Foundation iyo dawladda Soomaaliland oo lafteedu gacan ku leh oo dhinacyadaas ay la shaqeeyaan mashaariicda haddii aan tafaasiil ka siiyo laba ay u kala baxaan mid waxa weeye mashruuca dibadda magaalada amba ka soo bilaabmay ceelka biyaha ee ku yaala deegaanka degmada Dar es Salaam Geedeeble iyo nawaaxigiisa soo soconaya dhowr iyo 20 kilomitir imanaya barkada weyn ee magaalada ee sheedaha ku taala kaasna waxa weeyaan waa mashruuca magaalada dibadiisa ka soo bilaabmay ceelkii xaruntii biyaha laga soo garaacay laba waa ceelkii xaruntii biyaha laga soo garaacay bam stationkiya saddex transmission linkii beebkii biyaha ka soo qaaday maxaan ahaa wellville-ka amba ceelasha ee bam station ku soo garaacaysay ee Hargeysa keenaya waa saddex waa ceelkii waa bam stationkii waa xaruntii biyaha laga soo garaacay waa beebkii weynaa biyaha keenay waa afar waxa weeyaan maxaan ahaa barkadii magaalada biyuhu ku soo dhacayeen kaas waa mashruuca magaalada dibaddeeda midna waa mashruuca gudaha magaalada Hargeysa oo ah mashruuca loogu talagalay biyaha ka yimid ceelasha in lagu qaybiyo waa laba mashruuc bay ahayn mashruuc weyn oo ah ka dawladda Jarmalka naga taageerto iyadoo soo marinaysa banka horumarinta Jarmalka ee loo yaqaano KfW ama German Development Bank kala yarna waa mashruuca shirkadda Coca-Cola Africa Foundation ay iyadu ku tabarucday oo ah meelihii aan u gaarsiisnayn mashruuca weyn ee Jarmalka ee darafyada magaalada sida darafka maxaa koonfureed meesha area singaha la yiraahdo area la inaan xaray ka bilaabanto iyo area gantaalaha
kaasina waxa weeyaan waa labada mashruuc mashruuca jarmalka ee magaalada gudihiisu wuxuu ahaa dhismaha afarkeed allahumma salli ala sayyidina iyo 163 kilomitir oo beeba oo iskugu jira beebkii barkadaha isku xidhiyay waaweynaa beebkii qaybinta sameynayay iyo beebka maxaa kiostooyinka kaalmahan biyuhu ka dhaamiyeen tagayeen was 163 kilomitir oo points la maxaa 162 point something buu halkaas waa xagga beeb waa dhismaha afar barkadood oo ku yaala maxaa dhahdaa gacan libaax maxamuud haybe axmed dagax iyo tadhaxo noqonaysa halkii tii hore sheeda dhexdeeda noqonaysa waxa weeyaan labada hawlood waaweyn mashruucaas hirgelin waxa raacada meel lagu sameeyo chlorinationka oo maxaa biyaha markii loo baahdo awalgeed dawladdu ma laga soo dawin jiray marka loo baahdo marka shaybaarku waxyaabo sameeyo waxa kamid biyaha systemka oo kaadu ku yimaada si joogta baa loo baaraa markii ay u baahdaan boo la daweeyaa kadibna dib baa loo baaraa marka la daweeyo marka meeshii chlorinationka in laga sameeyo halkan barkada weyn dhexdiisa waxa raacdo kale waxa loo yaqaan maxaa dhahdaa waste water treatment facility xaruntii lagu maareeyay khashinka qoyan ee magaalada Hargeysa oo contractually ay gacanta ku hayso iyadoo wakaaladu iyadoo si dhow ay uga wada shaqeeyaan oo facility-ga leedahay dawladda hoose Hargeysa taasina waa shaqada kale ee uu mashruucani qabanayay haddaba mashaariicdaasi xagay marayaan maxay nooga qabsoomay maxaa qabiyaa goormay bilaameen iyo ay naga taageera mashruuca dibadda magaalada wuxuu u kala baxay laba cid oo waaweyn baa ku jiray saddex cid baa ku jirta ama saddex dhinac baa taageera dhaqaale ahaan waa mashruuca magaalada dibaddiisa waa midowga Yurub oo markii hore bilaabay mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF iyo dawladda Soomaaliland waxa weeyaan waa saddexdaas ayaa taageera mashruucaas mid waxay ahayd beebka weyn ee isku xidhiyay barkada geedeble ka soo bilaabmay biyaha Kenya Hargeysa beebka waxa iska kaashaday midowga Yurub dawladda Soomaaliland iyo maxaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland waa dhamaaday 23 kilomitir buu ahaa wuu dhamaaday waa la tijaabiyay waa diyaar shaqana waxay shaqadii pump stationka hirgelinta xarun cusub oo biyaha laga soo garaaco way xaruntii hore waxay u qaabaysnayd waana capacity ahaan waa yareed dooxana waa saarneyd marka iyada waxa la go'aansaday markii study-ga mashruuca la sameeyay in xarun cusub oo tii hore ka awood badan la aasaasay xarunta cusub laba wajiib ahayd marka contract-geeda mid waxa ay wixii dhismayaale xaruntu u baahan tahay oo u kala baxay dhismaha barkada cusub ee ceelashu markay biyo ka soo ururaan ay ku soo dhacayaan dhismaha generator house-ka guriga generatorada waaweyn lagu rakibayo dhismaha pump house-ka guriga pumpka waaweyn lagu dhex rakibayo kaydka shidaalka dhismaha kaydka shidaalka afar iyo maxaa dhismihii meeshii laga controlay dabkii waxaas marka kaasi wuxuu ahaa contract gooniya dhismayaashu shirkad reer Somaliland oo dalka laga leeyahay baa gacanta ku haysay contract-giisa oo ku guuleysatay markii hore contract-gan waxa loo bixiyay international waxa ku daran kambaniyada adduunka oo dhan ku tartamay cidii danaynaysa shirkadda markii ay shaqada ku adkaatay December markii aan shaqada la wareegay December 2016 waxaan u nimidnay markaa iyadoo shaqada ay qabanaysay duruufo badan ka jiraan shaqada ay qabatana tayadeedu aanay fiicnayn marka shirkii waxaan la wareegay shaqada 10 December 2016 January baa la lahaa shirka steering committee-ga ee lagu go'aamiyay arrimaha muhiimka ah ee mashruuca oo qayb ka yihiin dabcan dhinacyada inaga taageera mashruuca midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland hay'adda mashruuca gacanta ku haysa Habitat wakaalada biyaha Hargeysa wasaaradda horumarinta biyaha wasaaradda qorsheynta ka qayb gasho proposal-kan soo dhigna waxa shirkadda in termination lagu sameeyo shaqada laga wareejiyo maadaama shaqadii ay gacanta ku haysay aanis tayadii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa midna aan ku socon waa la isku raacay aragtidaas waa January 2017 laakiin hay'adii gacanta ku haysay markaa waxay say one more chance maadaama iyadu contractual wixii gacanta ku hayso baan siinanaa April 2017 baa la isku soo noqday waxaan aragnay inay samaysay 4% progress yani bishiiba 1% dawladda proposal-kii baan soo codbanaysay shirkadda shaqada laga saaro waa laga saaray markaa shirkaddii ku xigtay ee berigii tartanka kala qayb gashay ayaa soo gashay shaqada markii contract la eegay shirkadaasna shaqada waa dhamaystirtay qalabaynta dabka xarunta cusub waxa iyaduna gacanta ku haysay shirkad Faransiisa marka taasi hal contract bay tahay dhismayaashu contract labaad wuxuu ahaa contract beebka geedeble ilaa Hargeysa 23 kilomitir iyo contract maxaa qalabaynta dabka iyo mechanic-ada bamamkii generatorskii waxa soo marka laba shirkadood baa contract-ga wada qaatay midna Ethiopian tahay
midna ay Faransiis tahay ta Ethiopian ka ahayd main contract holder shirkadda weyna contract gacanta ku haysa saxaaxa leh laakiin waxay ku wada qaateen maxay si wada jira ay ku wada qaateen laakiin saxaaxa waxa lahayd Ethiopian ta Faransiiskana qaybaha dabka iyo mechanic-ada gacanta ku haysa iyagu maadaama markaas saxaaxa aanay wada lahayn saxaaxa Ethiopian kala khilaafaad badan ba dhexdooda ka yimid marka shirkadda Ethiopian-kii shaqada waa dhadhaweysay laakiin iyaduna waqtigii loo baahnaa kuma dhameystirin marka iyada lafteedu waxay noqotay markii contract-ga cusub oo ka dhamaaday inaan contract-geeda la cusboonaysiin wixii shaqo ay ka tagtay haday noqoto tijaabinta beebka iyo dhameystirkana waxa dhameystirtay wakaaladda biyaha Hargeysa beebkaas tijaabadiisina iyagoo si dhow ay isku kaashaneen hay'adda UN Habitat ayay samaysay qolada dabka iyaguna runtii habsan badan keenay iyagana si reer Somaliland ba termination markii aanu bushkareynaa lagu sameeyay shirkaddii soo xigtoo contract qaadatay sanadkii 2020 dhamaadkiisii October Soomaali Axmed October 2020 ayaa shaqadii la wareegtay marka sanadii dhowr bilood marka shirkaddii ku xigtay ma tartan dama la haysay tii dama ku guuleysatay marka oo iyaduna Faransiis ah oo la Razel Water Solutions ayaa ku guuleysatay tii baana imika dhameystirto shaqadaasina bam station kuna waa dhamaatay qalabeynteedii waxa uu hadhan tijaabooyinka markii la sameeyay ciladii soo baxay in la hagaajiyo marka mashruuca dibadda magaaladu horta shaqooyinka ugu horeeyay bilaabmay kuwaas ah haddaba maxay ka maqanayna walidiin sheeg waxay ka maqan ceelasha maxaynu ka qabanay maxaynu ku kordhinay ceelasha marka waxaan ogsoonahay geedibla marka hore waxa ka jiray mudane gudoomiye 14 ceel oo ku xidhnaa bam stationka hore biyaha laga soo garaaci jiray waxa lagu kordhiyay 3 ceel oo deegaanka hore xaal laga qoday sanadkii dhaweydna waxa laga hirgeliyay deegaanka shaqale ama laas dhuure loo yaqaano oo isaguna waqooyi bari geedibla kaga beegan oo degmada Dar es Salaam una 3 ceel oo kale laakiin ceelashaasi de midna kuma xidhnayn xarunta cusub ee biyaha laga soo garaacay markii hore waxay biyaha geynayeen bam stationkii hore u jiray marka iyagana waxa loo baahan biyahoodii la soo qaado marka xarunta cusub biyaha laga soo garaacay biyahoodii lagu soo wareeyay barkada cusub la keeno haddaba taana maxay nooga hirgalay who's Hargeysa Urban Water Supply Upgrading Project oo isaguna waxay badalaankii ahaayeen waa kan inta badan wada taabtay oo wax badan mutaa hadii dibadii tahay hadii bari tahay haday tahay systemka kicintiisii iyo soo boggareynta hadday tahay iyo hadday isugu tahay hadday tahay dadka iyo sidii loo waraabinay iyo magaalada gudaheeda iyo sidii biyaha laftooda la soo garaacay la keenay magaalada dalka soo galay in loo dhowriyo loo ilaaliyo loo control inta wadda carabka ku jirto su'aalahayna badankooda in badan generally questions iyo warbixinta raynaysiiyay jawaabahooda qaar badan ku jira meel yar laga yaabaa inaan duristaan halka kubadda ay su'aaluhu soo geli karayaan wakaaladda xarunta ay hirgelisay ee weliba xarunta baadhida ee qalabka ugu wanaagsan horta mid warba mahadnaqaya maaraya oo arrintaa waa la ogaa arrintaa imika ugu dambeysay uu sharaxay waa runtii wey sidaa uu sheegay wey oo waxa weeye beeruhu waxay ku bateen meeshii horta biyaha laga soo saaray magaalada laga waraabinayo ولين وجهنا هذا مليون يلا بقولوا كنا عاصمة كنا لين بلا بيئة هذا عند مشكلة ديدو عدول بوي كامرس وفي والد عروض قوة أقوياء ملا محبة أقول إنجنير ملا أهين سوشيال مد قوة الإنسان كقاضي تركيب وردينه وقال إنسان كلف ديس استبقوا الرأي وقاضي يا بدي تبع أي تايم مركا قفل بوي كامرس سوى البها هذا ماشي دي لقى ساري ما دام هو دارهم كيريين ما دام هو قبشدي روب كنت شو عيلتي maadaama roobka laftii wixii noo da-ay mar degdeg loo dhaafaya dabcan inta ku jirta in la ilaaliyaa arrin aniga laftaydu marka aan ku qancay shakhsiyan and personal midna waxa weeye de wixii recommendationkii la sameeyey intaasoo aqoonyahan oo caqli dee waxa ay kuu sheegaan dabcan waad ku qancaysaa adba dadkiina islaam ay ashaadinaya walaalahana yihiin dantaadina ay ka hadlayaan midna waa ta personalka oo iyo dad waajib midna waa tii aqoon ahaaneedo wixii laga hadlay logigiska wuxuu noqday waxaan aniga laftayda dhaafi karin dadayna kala qayb qaatana waajib ay noqoto waa ku maadsan dawladahaanna waa ku taageernay inkastoo dadku qayliyeen oo laga yaabo saaxiibkii maxamed abiib inuu dhinac kale noogu soo ridi lahaa sorry waan kaftare sorry saaxiib waa kalgacal marka kolley labadaba waad u dabqanaysaa xukuumaddu wixii ay ka hadashay markay logic noqdaan waad ku taageeraysaa dadkii markay waxay ka hadlayaan logic noqdaan ay warbaahidayadiiba ah oo dee tamaandhadii baa naga engegaysana dhinacii kalena haddana logic ma madhna laakiin arrintaana dee in xalkeeda la raadiya arrin kale oo iyaduna dee dabcan meesheeda taalabeed laakiin arrintaasina arrin aynu ku taageerada marka halka su-aashu waxa weeye xaruntaa aynu samaynay oo qalabka ugu fiican yaallo oo waxay ku jirtaa
waxyaabaha laynaga taageeray dhowrkan hay-adada aynaga taageereen mise waa mid mise waxaynu odhan karnaa budgetka wakaaladda arrintaa laga hirgeliyay halkaa su-aasha waxaan rabaa inay wada in halkaa ay wada fahmaan warbixintay ku jirto warbixinta maareeyaadkaa su-aal waad iska qoran su-aasha kale waa sax arrintan in la kala saaro water service providerka oo wakaaladii tahay wakaaladii inay service provide garanaysa waa point regulationka inay samaysaan arrintaana way ku yaray jirtaa waan damsanahay laakiin dee moofka hore iyo dhaqaaqa hore dabcan kolleyba cidda waxay sheeg garaysaa wax badan bay marka horeysa dhaqaajinaysaa hadhowada sectorska ayadna u kala bixi kaana kolley xeerka biyaha qaranka fordinantooda laga yaaba inuu u baahan yahay inaynu inagu marka aynu su-aalaheena jawaabaheena wada helo aynu wada qaadano masalada kale su-aashaan doonaya maarayaynu calaamadiyo wada maqashaana wax weyn ceelasha conclusion maaraya warbixintiisa waxay noogu jirtay 20 ceel in la rabo geedeeble inay kusoo beegmaan gadoweyd oo halkaa kusoo afyeeshaan 20ka ceel qodobka arrinta aynu u baahannahay inkasta oo negative kalena warbixinta maareeya ay ku jirto 20ka ceel anigu waxaan islahay in ka badan 60 mitir kub saacaddii ceelasha warahaadlay geedeeble dhammaan way idiin soo saari kareen weliba teesaskii hore aynu samaynay bamteska aynu ku samaynay ka weyn baa weliba loo baahnaa si exactly qodobkaad ka walaacaysa loo helo oo waxaan isla meelaha qaar maydaan gaadhin ceelkan taskiisa 24 hours markaa bamgaraysa ama 12 hours ma 6 hours buu ceelkaasi marka halka ugu hooseysa la gaadhsiiyey bamka ayuu zerooga sheegaya ma 150 buu sheegayaa markaynu bamgarayna saacadii ama markaynu 120 bamgaraynaa ma markaynu 100 bamgaraynaa weli halkaana waxaan isla waa farqul ku jirta laakiin mana awaalka aynaynu ka baqan karayn ceelasha go'i karaan oo arrintai maadiya oo dhacdo oo runoo xaqiiqiyo anaya dala dafri kara laakiin inaynu ogaanaa waxaan islaahay waa qodbaynu wakaalad ahaan hay-ad ahaan institution ahaan weli baahideedu meesha taal su-aashayduna waxay tahay 20ka ceela soo afyeelanaya qorshe ahaan exactly وإمسى متكون على عيل إن جدب لك سؤال أنا على مش وهو مغلس ساعة نوهل صدق يكون متكون هنا يسوق بهني يسوق قرشين أفرلا تكسابه وأي مركب اللي إلا بقول قف عين هاي حقيقيا ريوهودي إن أريا إن جيلا لودي عجويني وحبة بعد شغل بابورتي ولا ما يديو نقول عبارة عن ربك يسوق قرينا ولا نظيفين أيو إن بيرها كير لحيا ama hudheelad ama dee halkeenanba beeraa ku dhex yaala marka haddaynu dadkun xisaabino geedihiina waxbay u baahan yihin geedkii 1 liter 24 hourskii jiilaalkii in ka yar ma aqbalayo minimum 1 liter buu rabaa 24 saac oo weliba loo barakeeyo darab yar ugu dhacay in lagu ku furo oo markii laga siiyo dabeedna jiilaalkana ciid wada boobayso xisaabaadkaasoo dhamay marka la isugu wada geeyo waa minimum waa 30,000 oo mitir kub caasimadaasi anigu waxaan islaahay 24 hours haddaynu ugu yaraanana waa in 24 kilomitir kub ama 24 milyan ay at least 24 saac which means 1 million liter beer saacadii 1 million liter saaynu taa ugu guulaysano u soo gaadho 20kaasi marka ay soo afyeesheen kow masalna waa su-aal kale oo saddexaad su-aasha kalena waxa weeye waayo in badan oo kale aad baad maray ugu maadsantay warbixinta waxaan malaynayaa systemka dhammaan pointska wada taabatoo dhami sidaa aqoon ahaan iyo baarlamaan ahaan iyo sidaa aynu u wada maqalay waa wada fact to my experience waa wada run weeye waa wada sax sidaana way u wada jiraan oo sidaa aad u aragtaan way u wada jiraan su-aalaha maareeya aad weydiin doontaan inoogu diray waxa weeye hadda iyo wixii hore jiray waxaan malaynaya malaba isaga inoo sheegi doona maareeyo ma 10 kilomitir kubba waxa soo baxaa meelaha bay soo gaadhaan su-aalahaas way inoogu wada jiraan waa 10 kilomitir kub saacada waa laga cabanay way idinku jirtaa way inoogu jirtaa qorshaha maareeyaha iyo kulley iyo shaqaalaha tiimka way ka jawaabi doonaan masalada imika balsida isu ka fargarayso 8 kilomitir kub oo shiidaalka iyo badnaantiisa shaqaalaha badnaantooda ururintooda leakage-ka waxyaabahaasi waa exactly inta imika jirta hadda maaha tan inooga warramay ballaaran ta jirta iyaduna waa pointka kolley su-aalahayga ugu waaweyn waa meelaha hal qodob baan ku darayaa uun inkastii inaga horreeyo qorshe dheer oo hore la galay waxaa laga yaabaa waxaan islaamayey laga yaabaa inay ka horreysay maareeyaha ama injineerada in badanba
point ka inaynu samayno haddana booster aan wax islaahay cost badan oo xagga operational cost ah oo inagu haraya baa ku jira minis maxay nagu weynay 20 keena 20 bam oo min 100 kilowatt inaynu ku ridano oo 2 megawatt oo one time system keena ay noo soo bamgareeyaan salabadii beebe hore iyo beebka cusub بركد وين عصرنا الله يسبوك أنا وين ندوي الدرداد تاسين وسؤال شيء كله وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة وأنا ما زنتي وحين كنت جينا وين نطير عدي سؤال واسكور ده يجينا رمي هذا بقول شقيني دلوقتي أمارين ماذا كورت إسكولر محمد دارود من ويري ما كده أمارين نتفنده ومارين هذا صدقني وما سين إنجنير أحمد حلبان أحمد ورنتي يسقونا نفيل كان كهذا نلفتيسا أقانو له عاد ما سين حلبان سؤال شكو بعد حرون تمارين تبيها وسيء بحرنا ده وحرون وين وسيء ذو قلبيسن أساس كده أنا حرق لقى شيء السنة كده ديسمبر لكن مدة سو ساعتين runtii hanti malaayiin dollar maanta gacanta ku haysa oo qiimo badan waxay leedahay qisooyin cajiib ah horta waa marre waa godkii xashiishka hore magaalada xiraawr si fiican baad u garanaysaa halka Cabdicasiis Soomaaliyeed godkii xashiishka lagu dhaam site-kii way waxay ahayd dhul 7 balood iyo bad 80 by 60 yani 1 block 2 balood labo ha oo god weyn oo xashiishka magaalada ku gurtaa oo qodnaa ilaa 6 mitir marka waxay la jaartay halka yare barkada yare British area shacabka waraabisa horta meesha waan ogsoonahay dhibaato caafimaad oo culus ay xaafadda xiraawr ku hays way xashiishka magaalada dhan baa la isugu keenay jiray waxna waa laga qaban kari waayay marka waxaan go'aansanay dhamaadkii sanadkii 2020 horta waxa ka soo hadhayna waxa intii dalooshay hoosta u dalooshay intii kale oo dhan guryaha waa ay tageen intii dalooshay ay dad soo buuxiyeen meelaha qaar dabeeto baahiyaha hay'adaha dawladda jiran iminka dhulku waa dhibaatooyinka waaweyn jira marka waxaan go'aansanay dhibaatada bulshadana inaanu ka maareyno oo deegaanka xitaa dadku way ka guuri jireen guryaha la jaarka ah baqtiga lagu soo wax walba xitaa mararka qaar carruur baa baday sometimes meel dhibaato badan baxeed inaan ka maareyno 3 bilood baan buuxinay xaruntaas oo gaadiidka weyn oo kaaladu ka shaqeynay 15 kun oo tan oo ciida iyo garaacis fara badan baa gashay haddii ma garanaysaa buuxintaas oo kala 100 kun oo dollar oo kharash ahayd markii dhul wanaagsan baa ka soo baxay markii la buuxiyay 3 bilood lagu waday kadibna dhismayaal waan ka sameynay horta xaruntu waa taas waa koow qalabka culusna muddadii 2 sano ugu dambeeyay waan ururinayno iminka bulldozers ka haday noqoto D9 xarun dawladeed taalo oo kaalada biyaha Hargeysa oo kala ah talabaadna maxamed Saciid oo garanaysaa injineer asomkeeb waxa cid inaga caawiso dibadda ah ma jirto haba yaraatee oo qorshayaashii u jijisnaa oo kaaladu inay samaysato wixeeda abuurto baahidana ka bixi mayno ilaa resource ka aynu hayno intaynu si fiican u maareyno hay'adaha dawladda aan lagu qiimeyn mushahar iyo shidaal bay bixisaa lagu qiimeeyo maxay horumar sanadkii samaysaa kama bixi karna baahida inay haysato oo inaku de mas'uuliyadda leenahay aynaan qaadan marka taasi mid kamid ah baahiyo laga jawaabay xarunta shaybaarka oo runtii aan idinka waranay lafteeda hantida ugu badan waxa inaga gelinay waa in jiraan ciidayo naga taageeray shaybaarka ay kamid tahay hay'adda GIZ iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliya laakiin kicintiisa iyo kharashka ugu badan ee galay waa keena dadka aqoonta u lahaa bana gacanta ku waxaana ku haboon tahay dadka aqoonta in loo dhiibo gacanta loo sii daayo midda jirtaan horta waa taa injineer ku maasanta xaruntu waa taas maareyntu waxaan jeclaan lahaa maadaama waxaan yahay infrastructure waxna waa wixii waa story waa sheeko waxna waxaan farsay inaad idinka laftiinu xilibaan gudoomiye aad mid waxaan idin sheegaynaa barkad hebel maaday shaybaarka maxaa yaala marka waay markaad indhaha ku aragto laftiisi iyo wixiina way kala duwan tahay mashaariicdan kala hadlana waqti intaad samaysaan inaad inoo qoondaysaan oo si fiican aad u soo aragtaan waayo taas fikirkiin wax badan bay dhameystiraysaa markaad aragtaan taasina waa qodobka labaad ee arrinta xaalasha xilibaan imika waxaan wadnaa daraasad ay horkacayaan khubaro Ethiopian iyo teamkeenu daraasadaas wax kale laba daraasadood baa sameeyay hore mid waxa lagu eegayaa xaaladda kaydka biyaha ee Geedeble iyo kaydadkan kale in biyaha ka soo saarnay sida ka hor xaalada ee Laasdhoora ujeedadiisu maxay tahay kaydkan xaaladiisu maxay tahay muxuu yahay daraasadda waxa wada company Talyaaniga imika bilaabantay taas waa daraasadda koobaad
daraasada labaad ay wakaaladu wado waxa horkacay khubaro Ethiopiana iyo tiimka wakaalada waxa lagu eegayaa goobaha ku haboon dhaamam in laga hirgeliyo way magaalada markii uu diyaarino 20 ka ceelba inaan bambin joogta ku sameeyno bamka yaalaana de saacadii 500 mitir cubic soo bam gareynaa nimka injineer xarunta cusub yaala waa soo arki doontaa laba yaala kii saddexaadna dhawaan baan rakibana marka wali ceelal ku filan u hayno marka si kuwan horta aynu cimrigooda u ilaalino arintii dhaamamku xaruntii waa hirgelinay daraasadiina waa garab socota marka in dhaamka koobaad la kiciyo oo ujeedadiisu tahay inuu fiid gareeyo qoodiyo ceelashan taasina waa mid inoo socota oo imika socota marka labada daraasadood si parallel ay iskaga socota wakaaladu ha labada daraasadood waxaanu u baahanahay hay'adaha dawladda inay horseed noqdaan qaabka mashaariicda cayinkana loo fuliyo lagu dhiirado si dadka kalena ay u bartaan oo lagu xisaabtamo maamulka lagu xisaabtamo marka taasina waa marka ceelasha imika geediblo waxaanu ku qiyaasnaa ilaa 40 mitir cubic per hour kuwa hor hadlayna 60 mitir cubic ka badan ayaanu ka filanaa laakiin marka saacada lagu xidhay actual ku bilaamo ba engineer taas waa estimation baan go'aamin karnaa imika 9,000 mitir cubic ayaynu soo bam garaynaa waxaanu filanaa inta in laak inay ku biirto ha ma ujiga hore inta in laak biyahana exactly 4 ilaa maxay raad 30 mitir saa sheegtay qiyaastii ay hargeyso u baahan tahay runta marka la sheego ha meelaha sa engineerku sheegay ku dhow ayaa loo baahan yahay midna ku xisaabtamana kobcay nagu socdaa marka labada su'aal waa ka engineer hadii wax igu harsay way sheegi doontaa aadna waad mahadsantahay mahadsantahay gudoomiye maarayaha iyo tiimkiisana aad iyo aad u mahadsanyihiin warbixintii aad nasiiseenna waa ku mahadsantihiin tuurkana waa imanaynaa iyo waa guddiga waa qorshihiisa ku jirtaa marka imika goluhu howlihiisa dhamaysto waa inaga waa kulankeenii koowaad guddiga dabagalkuna qoladan waa guddiyada kale waa ka duwan yahay iyo waa ka xeel dheeri marka waan iman doonaa intaa markaan ka imaado maareeye maanta waa maxamed cadaalada waxa weeyaan waa warbixintaasi waa qaadanay laakiin golahan waa golihii wakiilada xildhibaanada waa xildhibaanadii shacabka waxa caadiga ee shacabku isweydiinaya baan anagu dadka weydiinaa dadku laakiin inta badan waa dhibsan waxay dhahaan waa warkii suuqa ma xildhibaanku warkii suuqa u shaqeeya مسؤول كانوا يقولوا كتشوا بدي ورك سوق ها ضدك سوق مثلا وكالة بيا هرجيسة إمسك جوري بيسيسا وإمسك جوري بيسيسا إمسك حفيز الدولتين بيسيسا أنا قرأتها ما تشعلها وهذيك القيمة هو حفيز يدا الدولتين بيسيسا العقب كقطن su-aasheeda labaad saddexaad imisa ilaa maanta intaad ogtihiin ay gacanta ku haysaan lacagta ku baxday biyo ballaarinta hargeysa ama de saaxiibadeenu hayna siiyaan ama inagu aan bixino ka bixino waa imisa shacabku waa isweydiinaya boqol iyo 360 kilomitir pipeline-ka magaalada lagu sameeyay la dhigayay boqolkiiba imisa dhamaaday waxaan rabaa su-aasheeda shaqaad annaga iyo shacabka inaad noo sharaxdaan lacagta fixed-ka ah ee 760 kun ee shilin Soomaaliland ee laga qaado guri kasto qasabad ku jirto tusaale anigu maxamed ayib baan guri baan ku jiray 2 bilood baan aniga xaaskayga iyo intay boor ugu maqleen markaan olole ku jirnay qasabadayda lama istaarin lama furin labadii warqadood waa la isku soo dul dhigay lacagtana waan bixiyay maxay tahay lacagtaas 67 kun dollar 67 kun shilin Soomaaliland ee fixed ka guriga laga qaaday soo dul dhigay
waxaan halkan ku hayaa aqal cabay 1 mitir cube sida xisaabtiina ku cad halka mitir cube waa 14 shan boqol 1 mitir cube biyo cabay saacadiisu miyuuga halka mitir cube waxay idin 14,500 oo Soomaaliland laga qaado only 76 baa ka qaadeen maxaa ka qaadeen sharciga baad ka qaadeen yaa idin xalaaleeyay ولدان waxay yiraahdeen bila xuquuqba saacadii doono lagu eriyaa bila xuquuqba diiwaan male qofkii la doona la keena qofkii la doonana waa la eriyaa arintaasina warwar badan bay ku abuurtay dad badan oo wakaalada biyaha ka tirsanayna warar waa naga siiyeen arintaan waxaan rabnaa inaad aniga shacabkaba aad naga shaafidaan ma doonina su'aasheedii sagaalaad sanduuqa SSDF lacag teleeg book SDF lacag teleeg book bixiyo wakaalada biyaha Hargeysa ma dhamaaday mashruucaasi koor ma sal lacagtii ugu horeysay su'aasha kale hore hadli waad soo qaatay dooda hadalkii dhigo ku jirtay shacabkii barigadooda waxay ka cabanayeen in beerta madaxweynaha riigagii loo fasaxay isaga shacabkiina ree hore hadle beeraha lahaay danyartahaana laga joojiyay maxaa ka jira hadday jirto sharciga madaxweynahana siiyay shacabkii danyartahaay beeraha lahaana ka joojiyay eedu cuskateena waan doonaynaa waxay dadku ka hadlaan ma jira wax layra oo jiinada source ka wakaalada biyuhu leedahay ama biyaha wakaalada biyaha Hargeysa waxaanu haynaa xog ah in beerta madaxweynaha aad leerka siisaan biyahana aad siisaan dadkii kale beeraha jaarkuna aanay helin xaqa gaarka u siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu shacabkii beeraha lahaa uu ka gaar noqdana isagana waan doonaa anaga shacabkeena naga kaafidaan sharciga cuskuteena waan doonaya mudane maaray warbixintaada waxaad ku dartay in biyaha Hargeysa macaani أجد دبل أون كجران. ما أنت ما قال. يا. أنت اللي هو. بيه معان ولا صاج راعك. أقول صفة. بيه معان كو ولا صاج راعك يعني. ما بلي له قصة. أوكي. لبس ولد بيهري. ساعدة. ود بدشان. قصب. يدون ساعد يستاجي. كنتم $1 باكو قصبتين نقاطن عكس. ساعد السوق اللي بس يسوي وكالة بيها Hargeysa يبيسا ساعد هذا بدك قصبيسان ما يدك عصام يستي محيط هاي واحد دورتين أستعملها هي على مدها بدك قصبيسان اللي بيجي يبيسا مركز ساعد ده قفك عد كجوج سن يا ساعد ده لو وصل حرية كنتم كنا شيلين بك قادرون بيسوعين ساعد دي جوري اللي قفرين واقعتها ما يدك حقول ساعد ده جوري قد كفرتان هنا وقت كتانو تعصبه وكو قصبتين كفرتان هتقول حدان labada isku meeshaan sharciyeediisii dadku waa danyar oo masaakiin marka saacad qasaba lagu qasbay ee tii laga furan ka qaadatay ma dib baad u sameeysan oo ugu hagaagsan wakaalada dhexdeeda kuwa kala diibilaysa baad ka dhigtaan ma burburisaan oo ma Ethiopia loo raraa xagee la geeyaa way qofku markuu aniga leeyahay uu dhahdo saaka bedel laambadan leerku markuu yimaado laambadan iga bedelo halkan aad dhigtaa qashinkeega ama ay xumaatay ma hagaagsan sharciyeediisina dadka qaadatan biyaha waa tartaan hadday meel ka liigto lacagta inta la gidi ku dadka qaaday ee fixirka marka tartaan biyaha marka tartaan farsamadoo dhan beebka weyn imika 40 xaafadood waraabinaya markuu meel ka dalashamo halka aad ka hagaajin leedeen inamadaadu inta u tagaa bay gamuuraan way xiraan deetana marka soo sameeyto waxay noqotaa wakaalada la yimaado deetana cala qoys 40 kun Soomaaliland laga qaado la isku dartaro lacagta wakaalada lagu soo shubo hadda waa cilad u baatay mid farsamo shaqaalaha mushaarkaad siisaa haddaan cilada ku filin maxaa mushaarka qaranka loo siiyo soo celinta biyaha qasabada liigtay aan xidhin marka la soo celiyo lacagna xaq ka qaadaan isla qasabada lagu bedelayana dadka soo iibsada lacagta wakaalada biyaha gasha marka waxay ku shaqeysaa haddaan anu inankii lacagtii siiyay uu igu hagaajiyay qasabada haddaan soo celintii konton kun laana bixiyo halkan ku jirta haddaan bixiyo Allahumma salli ala Muhammad biyaha soo iibsaday dadna kii lacag siiyay lacag shaqaalaha wakaaladu marka ma charity baa dadku iska siisa shaqaalaha maxay qabtaan
su-aasheeda ugu dambeysa maanta waxaynu joognaa 17 February 2022 ayaan joognaa biyaha mudana maareeya nin saaxiibay professor baa tahay waad garanaysaa biyaha Hargeysa halkay marayaan goorma ayay reer Hargeysa biyo cabayaan ood u sheegaysaa inay biyaha cabayaan waayo shaqadu maaha shaqo iska socoto waa shaqo time leh maxaa la yiraahdaa waqti leh xogtaanu haynay waxa in 2020 Hargeysa biyo cabto ugu dambeyn maantana fan noola faray kama noqday noqoto goorma biyo cabaysaa goorma ayay Hargeysa biyo cabaysaa arrinta ugu dambaysa su-aasheeda raacinayo saacadaha dadku qasabtan yaa soo dejiyay kambaniga soo dejiyay inaad noo sheegtaa ma rabnaa magaciisa hal su'aal baan iska dhigayna marka xilwan hal su'aal baad iska dhigaysaa kambaniga soo dejiya kambaniga soo dejiya saacada waxaan rabnaa in magaciisa qorano xafiiskiisa qorano aanu tagno wuxuu ku duway preferencekiisa ogaano sababta uu door bideen aan ogaano maadaama marka aniga gurigeygiyo saacada ku xiran tahay mar walba fixed leekan waxa ku jiray 4 sanadood baan guriga ku jiray 4 sanadood lacag isku mid ah laga qaaday maalinna $1 miis dhimin $1 ismay bedel fixed bed mar day fixed ma cabin aniga 2 bilood oo ku maqnaayo halka kursigan maanta ku shaqeeyay marka raadinayay 2 bilood lacagtii waa laga qaaday gurigeygana lama gelin qufulka ku dhajiyay maalintii aan iyo islaamtu bad ayaan kaga tagay waniga kule marka saacadii maxay muhiimadeedu tahay mar hadayna ayna difference sheegayeen biyo ayna sheegayeen waa ka baxaya gudoomiye ya afrato wala xabad u dambeysay baan gudoomiye sheegaya xabad u dambeysay sheegaya xabad u dambeysay baan sheegaya gudoomiye raaliga ah waxaad noo sheegtaa wax soo saarka dakhliga wakaaladda biyaha Hargeysa maxaa shaqaale ku baxa maxaa shidaal idinkaga baxa maxaa hawl kale idinkaga baxa arrintan wax rabnaa inaad warbixin fiican naga siisan aad iyo dood maasantay gudoomiye iyo mudana maareey waan ka baxana شوت اسمع على وضع واي وانا مستني ولا شيء ومهسي حلوان محمد حبيب حلوان انجنير احمد كهرينا ومهسيه horta mid baan jeclaan lahaa inaan kalsoonid ku siiyo mudane gudoomiyaha gudidaadaba xalaali wixii su'aalaad weydiinaysan waqtiga doontaa qaadato diyaar baan idin haddii maqribkii noogu dhacayso haddii waagii noogu bari raggan waa rag dhalinyaro habeenii maalin baa u shaqeeya horta daa diyaar baan idin su'aalaadna weydiinaysaane tabaysaanna waxaa laali xasaasiyadoon ka qabnaa waxaad tihiin xildhibaanadii qaranka shacabka idinkaa matala awooddiina waa isku ixtiraamayna mid kalena meesha waa ku jirtaa midda kale ku jirtaa waxa weeye maadaama goluhu cusub iyo xildhibaanaduna cusub yihiin waa inay xog helaan haddaanay xog helin seebay xeerarkii u dejinayaan waa in haddii dowladda xog ka helaan xogtaana dabeeto dee ay ku go-aan qaataan wax ku dhisaan wax ku hagaajiyaan ujeedaduna runtii aan ka wada duulaynaana waxa weeyaan howlaha qaranka sidii loo wada horumarin lahaa haddii hore loogu sii qaadi lahaa loo dhisi lahaa waayo gebigeena waxaan ka shaqeynaynaa baahiyaha dowladnimada inaynu ka jawaabno marka taana waan isku boorin lahaa marka waad mahadsantahay xildhibaan maxamed habiib على ذلك دي ما تروح مسؤول إنه
hawl ka mid ah hawlihii ay mas-uuliyaddu idinka saarnayd annaga idinka iyo annagaba maaragay soo dhawin kadib warbixin kooban iyo qorista shaqada qorka waasaan wakaaladda waxyaabaha idin socda waxyaabaha idin qabsoomay insha allah المقصود حلوات ميكروفونات كلهم نص اوكي ما اوكي واضح يا سامسون انا عاد كم هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ومهدسيهين قددا dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo sidii dastuurka waajiminayay noogu yeedhay inaan xog waran iyo iswaraysi ugu nimaadno xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyadoo guddida runtii gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan faray iyaga iyo annaga oo ah mid ka mid ah hay-adaha dowladda jamhuuriyadda somalilan kulankani waa kulankii saddexaad aan la qaadano golaha cusub guddidii koowaad ee guddida deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah waxaan la kulannay September waxaanan filanaa inaan waxayn hay'adihii dowladda ee ugu horeeyay la kulma guddida golaha wakiilada guddidii labaadna waxaan la kulannay September sanadkii hore sanadkii marka dhamaaday guddidii labaadna waxaan la kulannay November oo ah guddida dhaqaalaha guddina waa guddidii saddexaad maanta oo bishu tahay 17 bisha labaad sanadka 2022 halkan kulankeeda ku nimid sida caadada ahayd waxaanu ku faraxsanahay inaanu halkan idin joogno intaana warbixinta idin bilaabin guddoomiye waxaan jeclaan lahaa inaan isbarasheero kooban xaggayga sameeyno anigu waxaan ahay maareey wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ninka igu xiga waa Cabdulle Sacad Muuse waa khabiir cilmiga geologiga oo khabarada ka hawlgasha mashaariicda biyaha Axmed Muuse Daahir baa ku xiga Cabdulle waa ninkan Axmed Muuse Daahir baa ku xiga isaguna waa khabiir cilmiga geologiga bartay maamulka mashaariicda waana agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Faarax Jaad waa injineer ilaa 1970 ka soo shaqeynay maxaan raahdaa Ingiriiska halkan Soomaaliland injineerada oo wakaalada biyaha waxa ku xiga Mustafa lecture oo khabarada shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa iyo ninka maamulkiisa gacanta ku haya maanta Dr. Axmed Xuseen Ciise dabcan oo bartay naga maqan oo safar dibadda ku maqan Barkhad Cabdiraxmaan Xaashi cilmiga IT-gu bartay waa agaasimaha waaxda IT-ga marka rag waa xildhibaanada dabcan oo wada garanaysan Mustafa Khayr ee gudoomiyaha guddiga waad ku mahadsantahay gudoomiye soo dhaweynta noo sameysay haddii hawsheena aan bilaabno wakaalada biyaha Hargeysa oo hay'adda qaranka u xil saaran adeegga biyaha ee caasimadda jamhuuriyadda Somaliland oo runtii ah mid ka mid ah hay'adaha waaweyn ee dalka waxay gacanta ku haysaa hawlo kala duwan hawlaheeda caadiga ama operationskeeda caadiga ah mid noqonayo midna iyo wixii laga bedelayo midna ay noqonayso mashaariicda wax laga bedelayo adeegga biyaha ee magaalada Hargeysa wakaalada biyaha Hargeysa runtii oo ah xarumo shaqo ku leh deegaamo kala duwan oo ugu intahay deegaanka degmada Dar es Salaam iyo caasimadda gudaheeda iyo deegaano bariga ay ku jiraanba hawlaha hayso waa kuwa u socda si habsami ah haddii aynu ku bilowno maxaa ka socda wakaalada biyaha Hargeysa mid waa mashruuca biyaha mid waxa weeye horumarinta lagu sameeyay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo imika ah mid dalka oo dhan laga isticmaalo gobolada kala duwan ee Somaliland laga isticmaalo wadamada inoo jaarka inala jaarka ay ka mid tahay Soomaaliya oo lagu baaro biyihii dibadda ay u diri jireen Soomaaliya laftooda ay dalkeena keenaan Soomaaliland biyihii dalka dibaddiisa loo diri jiray halkan lagu baaro laga bilaabo ka yimaadaan baaritaanada dhammaan gobolada jamhuuriyadda Somaliland iyo wadanka inala jaarka ee Soomaaliya gobolo kala duwan Muqdisho iyo Garowe iyo meelo kala duwan ay ka mid tahay ilaa Dhuusamara ay si joogto ah u yimaadaan taasina ay hirgelisay shaybaarka oo xarun si buuxda u qalabaysan haddii idinka leeyahay dadkii khabarada ahaa ee aqoonta u lahaa fiilka ugu aqoonta badnaa dalkuna ay ka shaqeeyaan oo fuliyayna runtii laba cilmi baadhisood oo kala duwan midna lagu eegay biyaha magaalada lagu isticmaalo ma aha biyaha qasabada oo kalaata
biyaha booyaduhu magaalada soo dhaamiyaan ee magaalada hareeraheeda ah deegaanada bariga waqooyiga iyo maxaan idhaahdaa galbeedkii koonfurta Hargeysa laga keenaba 40 ceel oo ku yaala oo kuwa ugu badan ee booyaduhu ka soo dhaamiyaan baaritaan lagu sameeyay daraasada hore ahayd la baaray kaydadka hodheelada waaweyn saambalo laga soo qaado la baaray kaydadka guryaha la baaray booyadaha laftooda midna waa ceelkii iyo source-kii iyo ishiya midna booyadii soo qaadaysa laftiisa waa cilmi baarista hore oo sanadkii dhamaaday la soo bandhigay bilowgiisii midna waxa ahayd cilmi baarista labaad ee lagu eegayay tayada biyaha warshadaysan ee wadanka magaalada Hargeysa lagu isticmaalo marka dabcan biyaha wadanka laga soo saaraa oo dhan waxay yimaadaan Hargeysa maadaama caasimadda tahay meesha suuqa ugu ballaaran ka jiraya cilmi baaris lagu sameeyay iyadana waxyaabihii ka soo baxayna bulshada iyo hay'adaha dawladda ku shaqada leh la wadaagay midna waxa weeye casriyeynta adeega wakaaladu gacanta ku haysa shaqadeeda waayo waxa weeye adduunkan aynu joognaa shalay iyo maanta isku meel ma taagna way isbedelayaan qaabka adeegyada loo bixiyo hadday noqoto dhinac walba hadday noqoto adeegyada biyo marka adeegyada casriyeynta oo badankooda ka socdaan waaxda IT-ga iyaguna runtii waa talaabooyin waxa lagu dhiiriday wax ka bedeli kara wakaalada biyaha Hargeysa kana mid dhigay inay noqoto qaabka adeeg bixinta kuwa ugu horeeya gobolka maanta aynu ku noolnahay maaha gobolka waxaan ka hadlayaa Geeska Afrika mid waxa weeye wakaaladaheena biyuhu waa inay dhaafaan marxaladda ah in ay shaqadeedu tahay qasabada la soo furo ceelkooda inmid marka gubato la dayactiro iyo biilkoo la soo xareeyo oo maxaa lagu kordhinayaa waxaan ogsoonahay deeqaha dibaddu sanadba sanad ka dambeeya inay sii gabaabsi noqonayaan waxaan ogsoonahay dawladdu wax bixin jiray in attitudeska ama waaqifta kuwa jahandalkooda cashuurihii dibadda maxaa deeqihii dibadda la siinay si yaraanayso iyadoo taa laga duulayo waa in hay'adaha dawladdu ay sameeyaan horumarintaas oo ah waxna waa wixii waajibka ahaa adeegga asaasiga waxna waa wax lagu daro shaqadii iyo maxaan idhahdaa awoodii institution iyadoo taa laga duulayo waxay wakaaladu hirgelisay xarunta maareynta biyaha hoose iyo bixiraanada oo loo aasaasay number 1 runtii xaruntaas oo compound-keedii iyo qalabkeedii iyo cususlaa iyo qalabkii cilmi baaristuba badi gacanta ku haysa runtii qalab aad u qiimo badan oo imika ah mid ka mid ah qalabada ugu wanaagsan ee dalka yaala marka loo eego hay'adaha dawladda qalab ku hay ay gacanta ku hayso sanadkii dhaweyd bishii December-na xariga laga jaray hadduu idinkeeda leeyahay xarunta waxaan ugu talagalnay in ay la socoto xaaladaha biyaha ee kaydka hoose waayo adduunka in badan baynu wararka ka maqalnaa magaalo weyn oo biyaheedii ceelasheedii go'aan amba la leeyahay bil kadib ay go'ayaan waa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa laga yaabaa wararka inaad ka maqlayseen magaalooyin wadanka India ku yaala South Africa qaar ku yaala oo gaadhay marxalad ciidamadii biyihii raayharsanaa rationing ku sameeyaan iyagu intay kuyuga galaan ay qaybiyaan marka si taa looga fogaado waa inaan ogsoon karnaa kaydadkan hoose inuu Hargeysa imika ku tiirsan tahay doonaynana shacabka badan ee iminka biyaha keenin wakaalada biyaha Hargeysa inaynu baahidooda ka daboolno xaaladoodu maxay tahay imise sanayna wadayaan sidee baynu u kordhin karnaa kaydadkaas waa xarunta maareynta biyaha hoose biyaha xidheenada bishii December sanadka laga jaro waa xarunta labaad ee wakaaladu hirgelisay marka lagu daro shaybaarka taafraadna xaween mashaariicda biyaha Hargeysa oo ah mashruuc dhinacna lagu cusboonaysiinayo adeegii jiray oo adeegii jiray biyaha baybabkii iyo barkadii hore u jiray waxa la aasaasay 1900 bilowgii 70-nadii waana duugoobeen muddooyinkii dacalaaduhu jireen dalka laga maqnaa mid horta waa in kuwa la cusboonaysiiyo la bedelo adeegaas midna waxa weeyaan adeegga laftiisii in la fidiyo oo sidee loo fidinayaa dadkii inta ay dabooli jirtay wakaalada biyuhu Hargeysa lagu daro dad kale baahidoodii la daboolo caasimadda ka tirsan marka taa laga hadlayo taasna runtii waxay mashaariic waa hal mashruuc inaku markaan dibadda ka joogno waa mashruuca biyaha Hargeysa laakiin gudaha markaan ka joogno waa mashaariic kala duwan waxay nagala shaqeeyay dawladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta oo amba saaxiibada Soomaaliland dhinaca horumarinta ay ka mid yihiin midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF dawladda Jarmalka amba waxa loo yaqaan German Development Corporation amba KfW banka horumarinta Jarmalka shirkado gaar ah ku jira shirkadda Coca-Cola Africa Foundation iyo dawladda Soomaaliland oo lafteedu gacan ku leh oo dhinacyadaas ay la shaqeeyaan mashaariicda haddii aan tafaasiil ka siiyo laba ay u kala baxaan mid waxa weeye mashruuca dibadda magaalada amba ka soo bilaabmay ceelka biyaha ee ku yaala deegaanka degmada Dar es Salaam Geedeeble iyo nawaaxigiisa soo soconaya dhowr iyo 20 kilomitir imanaya barkada weyn ee magaalada ee sheedaha ku taala kaasna waxa weeyaan waa mashruuca magaalada dibadiisa ka soo bilaabmay ceelkii
xaruntii biyaha laga soo garaacay 2 waa ceelkii xaruntii biyaha laga soo garaacay bam stationkiya 3 transmission linkii beebkii biyaha ka soo qaadayay maxaan ahaa welvilka amba ceelasha ee bam station ku soo garaacaysay ee Hargeysa Kenya waa 3 waa ceelkii waa bam stationkii waa xaruntii biyaha laga soo garaacay waa beebkii weynaa biyaha Kenya waa 4 waxa weeyaan maxaan ahaa barkadii magaalada biyuhu ku soo dhacayeen kaas waa mashruuca magaalada dibadeeda oo barkada midna waa mashruuca gudaha magaalada Hargeysa oo ah mashruuca loogu talagalay biyaha ka yimid ceelasha in lagu qaybiyo waa laba mashruuc bay ahayn mashruuc weyn oo ah ka dawladda Jarmalku naga taageerto iyadoo soo marinaysa banka horumarinta Jarmalka ee loo yaqaano KfW ama German Development Bank kala yarna waa mashruuca shirkadda Coca-Cola Africa Foundation ay iyadu ku tabarucday oo ah meelihii aanu gaarsiisnayn mashruuca weyn ee Jarmalka ee darafyada magaalada sida darafka maxaa koonfureed meesha area singaha la yiraahdo area laga inaan xaray ka bilaabanto iyo area gantaalaha kaasna waxa weeyaan waa labada mashruuca Jarmalka ee magaalada gudihiisu wuxuu ahaa dhismaha 4 kayd Allahumma salli ala sama iyo 163 kilomitir oo beeba oo isku jira beebkii barkadaha isku xidhiyay waaweynaa beebkii qaybinta sameynayay iyo beebka maxaa kiostooyinka kaalmahan biyuhu ka dhaamiyeen tagayeen was 163 kilomitir oo points la maxaa 162 point something buu halkaas waa xagga beeb waa dhismaha 4 barkadood oo ku yaala maxaa dhada gacan libaax Maxamuud Haybe Axmed Dagax iyo Tadhaxo noqonaysa halkii tii hore sheeda dhexdeeda noqonaysa waxa weeyaan labada hawlood waaweyn mashruucaas hirgelinay waxa raacada meel lagu sameeyo chlorinationka oo maxaa biyaha markii loo baahdo awalgeed deebnu ma laga soo dooyin jiray marka loo baahday marka shaybaarku waxyaabo sameeyo waxa kamid biyaha systemka oo kaadu ku yimaada si joogta baa loo baadha markii ay u baahdaan boo la duweeyaa kadibna dib baa loo baadha marka la duweeyo marka meeshii chlorinationka in laga sameeyo halkan barkada weyn dhexdiisa waxa raacdo kale waxa loo yaqaan maxaa dhahdaa waste water treatment facility xaruntii lagu maareeyay khashinka qoyan ee magaalada Hargeysa oo contractually ay gacanta ku hayso iyadoo wakaaladu iyadoo si dhow ay uga wada shaqeeyaan oo facility-ga leedahay dawladda hoose Hargeysa taasina waa shaqada kale ee uu mashruucani qabanayay haddaba mashaariicdaasi xagay marayaan maxay nooga qabsoomay maxaa qabiyaa goormay bilaameen yaa inaga taageera mashruuca dibadda magaalada wuxuu u kala baxay laba cid oo waaweyn baa ku jiray 3 cid baa ku jirta ama 3 dhinac baa taageera dhaqaale ahaan waa mashruuca magaalada dibadiisa waa midowga Yurub oo markii hore bilaabay mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF iyo dawladda Soomaaliland waxa weeyaan waa 3daas ayaa taageera mashruucaas mid waxay ahayd beebka weyn ee isku xidhiyay barkada geedeble ka soo bilaabmay biyaha Kenya Hargeysa beebka waxa iska kaashaday midowga Yurub dawladda Soomaaliland iyo maxaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland waa dhamaaday 23 kilomitir buu ahaa wuu dhamaaday waa la tijaabiyay waa diyaar shaqana waxay shaqadii bam stationka hirgelinta xarun cusub oo biyaha laga soo garaaco way xaruntii hore waxay u qaabaysnayd waana capacity ahaan waa yareed dooxana waa saarneyd marka iyada waxa la go'aansaday markii study-ga mashruuca la sameeyay in xarun cusub oo tii hore ka awood badan la aasaaso xarunta cusub laba wajiib ahayd marka contract-geeda mid waxa ay wixii dhismayaale xaruntu u baahan tahay oo u kala baxay dhismaha barkada cusub ee ceelashu markay biyuhu ka soo ururaan ay ku soo dhacayaan dhismaha generator house-ka guriga generatorada waaweyn lagu rakibayo dhismaha pump house-ka guriga bamka waaweyn lagu dhex rakibayo kaydka shidaalka dhismaha kaydka shidaalka 4 iyo maxaa dhismihii meeshii laga controlay dabkii waxaas marka kaasi wuxuu ahaa contract gooniya dhismayaashu shirkad reer Somaliland oo dalka laga leeyahay waa gacanta ku haysay contract-giisa oo ku guuleysatay markii hore contract-gan waxa loo bixiyay si international waxa ku daran kambaniyada adduunka oo dhan ku tartamay cidii danaynaysa shirkadda markii ay shaqada ku adkaatay December markii aan shaqada la wareegay December 2016 waxaan u nimidnay markaa iyadoo shaqaday qabanaysay duruufo badan ka jiraan shaqaday qabatana tayadeedu aanay fiicnayn marka shirkii waxaan la wareegay shaqada 10 December 2016 January baa la lahaa shirka steering committee-ga ee lagu go'aamiyay arrimaha muhiimka ah ee mashruuca oo qayb ka yihiin dabcan dhinacyada inaga taageera mashruuca midowga Yurub sanduuqa horumarinta Soomaaliland hay'adda mashruuca gacanta ku haysa iyo Habitat
wakaalada biyaha Hargeysa wasaaradda horumarinta biyaha wasaaradda qorsheynta ka qayb gasho proposalkan soo dhigna waxa shirkadda in termination lagu sameeyo shaqada laga wareejiyo maadaama shaqadii ay gacanta ku haysay aanis tayadii loo baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa midna aan ku socon waa la isku raacay aragtidaas waa January 2017 laakiin hay'adii gacanta ku haysay markaa waxay tahay one more chance maadaama iyadu contractual wixii gacanta ku hayso baan siinanaa April 2017 baa la isku soo noqday waxaan aragnay inay samaysay 4% progress yani bishiiba 1% dawladda proposalkii baan soo codsanay shirkadda shaqada laga saaro waa laga saaray markaa shirkaddii ku xigtay ee berigii tartanka kala qayb gashay ayaa soo gashay shaqada markii contract la eegay shirkadaasna shaqada waa dhamaystirtay qalabaynta dabka xarunta cusub waxa iyaduna gacanta ku haysay shirkad Faransiisa marka taas hal contract bay ta dhismayaashu contract labaad wuxuu ahaa contract beebka geedeble ilaa Hargeysa 320 km iyo contract maxaan qalabaynta dabka iyo mechanical bamamkii generatorski waxa soo marka laba shirkadood baa is contract wada qaatay midna Ethiopian tahay midna ay Faransiis tahay Ethiopian ka ahayd main contract holder shirkadda weyna contract gacanta ku haysa saxaaxa leh laakiin waxay ku wada qaateen maxay si wada jira ay ku wada qaateen laakiin saxaaxa waxa lahayd Ethiopian ta Faransiiskana qaybaha dabka iyo mechanical gacanta ku haysa iyagu maadaama markaa saxaaxa aanay wada lahayn saxaaxa Ethiopian kala khilaafaad badan ba dhexdooda ka yimid marka shirkadda Ethiopian-kii shaqada waa dhadhaweysay laakiin iyaduna waqtigii loo baahnaa kuma dhameystirin marka iyada lafteedu waxay noqotay markii contract-ga cusub oo ka dhamaaday inaan contract-geeda la cusboonaysiin wixii shaqo ay ka tagtay haday noqoto tijaabinta beebka iyo dhamaystirkana waxa dhamaystirtay wakaalada biyaha Hargeysa beebkaas tijaabadiisina iyagoo si dhow ay isku kaashaneen hay'adda UN Habitat ayay samaysay qolada dabka iyaguna runtii habsan badan keenay iyagana CST reer Soomaaliland baa termination markii aanu bushkareynay lagu sameeyay shirkaddii soo xigto contract-ka qaadatay sanadkii 2020 dhamaadkiisii October Soomaaliya Axmed October 2020 ayaa shaqadii la wareegtay marka sanadii dhowr bilood marka shirkaddii ku xigtay ma waa tartan dama la haysay tii dama ku guuleysatay marka oo iyaduna Faransiis ah oo la Razel Water Solutions ayaa ku guuleysatay tii baana imika dhamaystirto shaqadaasina bam station kuna waa dhamaatay qalabaynteedii waxa uu hadhan tijaabooyinka markii la sameeyay ciladii soo baxay in la hagaajiyo marka mashruuca dibadda magaaladu horta shaqooyinka ugu horeeyay bilaabmay kuwaas ah hadaba maxay ka maqanayna walidiin sheeg waxay ka maqan ceelasha maxaynu ka qabanay waxaynu ku kordhinay ceelasha marka waxaan ogsoonahay geedible marka hore waxa ka jiray mudane gudoomiye 14 ceel oo ku xidhnaa bam station-ka hore biyaha laga soo garaaci jiray waxa lagu kordhiyay 3 ceel oo deegaanka hore xaal laga qoday sanadkii dhaweydna waxa laga hirgeliyay deegaanka shaqale ama laas dhuure loo yaqaano oo isaguna waqooyi bari geedible kaga beegan oo degmada Dar es Salaam una 3 ceel oo kale laakiin ceelashaasi de midna kuma xidhnayn xarunta cusub ee biyaha laga soo garaacay markii hore waxay biyaha geeyay magaranaysa caalama taasna waa qodob hawsha marka uu asaasnay daraasadan la wadana imikana alternative aquifers in kaydad kale la raadiyo lafteedana daraasadan socota qayb ay ka tahay qaybta koowaad waa in la eego kaydad kale aynu ka cabnimo xaaladooda waa sidee qaybta labaadna waxa weeye in la eego kaydad kale sidii loo heli lahaa xarunta dhanna wada marka noo timaadaan baad arki doontaa waxaan u aasaasan waa arrimahaas dooxidan Hargeysa oo dhan in qorshaha la sameeyo wakaaladu sanadkiiba intaas oo doox ay xidhi karto marka hore waxay naga hayd ururintii qalabka iyo asaaska xarunta laakiin mustaqbalka waxay naga noqonaysaa cilmi baaristii iyo dooxin la xidha way marka hore wakaaladu hal kaariyonana ma lahayn hawa yaraatay laakiin maanta qalabkii ugu wanaagsan ee dawladdu leedahay baa yaala taasina waa talabaad marka hawshaas waa hawl qorshaheeduna dejisan tahay talaabooyinkeedina aanu qaadnay ta saddexaad ah deegaanada hore haad leh waxaan ku kalsoonahay marka la sameeyo dhaamka koobaad ee uu hirgalo si fiican u hirgalo in laga maarmi doono baahida dadka in laga xidho beerahooda waxaanu qorshahan dadka soo bandhignay waxaan dadkii balayaqoodinay wakaaladu kala qayb gasho koska oo kos sharing ha samayso taana waan soo bandhignay daraasadii aan ku eeganay dhaamamkana waa taan ku sheegay kulaha khubaro Ethiopian ayaa wada taa wakaalada wada tan kale kamaniga Talyaaniga wadaana qayb ay ka tahay hawshaas in dhaamamka la sahamay marka taasna xilibaan way noogu jirtaa qorshaha muhiimaddu waxa weeye hay'addu waajibaad caynkana inay gudan karto dayad marka hore way noqotaa mid caafimaad qabta oo dhisan laakiin iyadiiba hadii operationkeedii raay la dhacayso beeb yaro ka jabay waxa ma sameyn karto marka waan cilmi baarintii fulin kartaa operationkina mashruuca 6 ceelay November ilaa February ay ku xidhay wakaaladu waxaan ku kalsoonahay shirkad gaar ah hadii loo dhibi lahaa sanad inay qaadan lahayd beebka geedeble ilaa Hargeysa wakaalada isku soo xidho dhamaystirtay
marka wakaaladu maanta waxayd operationki awood ahaan aad u kobacday wixii noo korrayna maaha mid ina daaro dee wax magac gaaro waa laakiin waa mid qaranku dee uu iska leeyahay marka waa ku mahadsanta xildhibaan haddii wax igu darsa diyaar baan ku ahay waad mahadsantahay walaalayaal horta waxaan kula dardaarmay baqashada ilaahay ilaahay inoo sheego maxaan ku dhacdaaye biyuhu waxalo noolba dee waa wixii muhiimka u ahaa idinkana mas-uuliyad baa idin saaran aada iyo aada u weyn annagana sidoo kale dee mas-uuliyad baana saaran marka haddaanu idinku yaro kululaynana waa iska orarayn waananu idin busho bixin oo agteedaa joogtaa waananu isbaran doonaa insha allah bismillahi ka xafiisyada ayaanu idinku iman doonaa iyo saadyada a waxaana ka hirgelinaysaan marka horta marka hore waanu idin mahadnaqaynaa inkastoo guddoomiye hadalka ku dhammayn doono isbarasho wanaagsan maanta waa number 1kii laakiin number 2 inta uu ka xoog weynaan doonaa insha allah bismillahi alkariim midna waan idin sheegayaa wax allaale iyo wax maxaan ku dhahdaay dan gaar annaga noo ah waati ilaahay balaa inaga raaciya wax allaale iyo wax heer feeling xaggiina ana waati ilaahay balaa inaga raaciya waxaan ku doonaya inaan ku gebagabeeyo shaqaalihiina wacdigooda sababtoo maalin dhaweyto waan eega anugu had iyo jeer maxaan ku dhahday arrimaha noocaas sababta ku leeyahay waan u bixiyaa waxa weeyaan inaanay dadku wada jarin xitaa aniga day igu dayda iminka matalan guriga iga xiga midigta 20 mitir taangigiisa waa la xidhaa markay biyo butacaan marka intaan soo baxan karo taangiga xidha anna ima soo gaaro biyahaasi waxaa mushkilad ma laha waa qadar waa qof walaa risqiisu cunaya waana nimi actually wakaalada waxaan ku rooniyo biyo la'aan baan ka wahay wada sanad ka hor meelahaas inama yimi waxba yaro qodqodeen shaqalkaagu waa iska oreer bay yiraahdeen anna markaa waan yara baxay dibadda waan soo noqday waxba miska ma bedelin waxba mushkilad ma laha laakiin qolada idin shaqaynaysana laftoodu inay dayarto u turaan aad baa xildhibaan Saciid Sokoy waad mahadsan tahay horta golaha waxaa filayaa malaha waa markii saddexaad la kulmayno mooy ma jiro hay'ad dawladeed iga badsataa inay jirto ilaa hadda taasina waxa weeyaan kalsooni aanu ku qabno golaha inaan fahansanahay ahmiyadda ay ka tarayso wada shaqayn dhow la yeelana golaha laftiisa marka gudidii koobaad deegaanka dhaqaalaha iyo tiinootii dabagalka ilaalinta hadida qaranka saddexdan gudi kastoo noo timaadana waqtigeeda doonta qaata diyaar baan anaguna horta taanu aaminsanahay waa taas wax dareen gaar oo xasaasiyad ka qabna ma jirto waxaan aaminsanahay waxaan wada raadinaa wadanta qaranka waxyaabaha naga dhimanna inagoo degan baynu isku sharaxi karnaa aynu isfahansiin karnaa waxyaabaha qaar baa laga qofku inuu khalad fahansan niyadu horta niyad wanaaguna waa tawaad ku maasanta xilliban waanada iyo taadna fartay anaguna halkaas baan ka miisana marka dambe noo iman hasaana diyaar baanu idinahay may ana yar marayad bad marta tahay adiga iyo teamka kula socdayba sidaad waxa weeye golaha iyo gudigaba hortimaadeen insha Allah wixii ay dunala wadaagteen ee wanaagsanana waxa weeye insha Allah waxaan u gudbin doonaa golahaanu la wadaagi doonaa marka kala fadhiga laga soo noqdo oo furmo wixii golahu waajib ka saaran yahayna insha Allah uu qaadan doonaa de macluumaad badan baanu wixii aanu haynayna waanu intii aanu ka gaari karay waa ka gaarnay maalinna hay'adaha dawladdu kuma kala dhamaanayaan haddii wax kaloo noo soo baxaa jiraana waanu idinla soo wadaagi laakiin insha Allah de shaqooyinkii intuu kala fadhiga xidhay la qabanayay unbay tan ugu horeysa marka golahan insha Allah wixii nagala gudboon aanu la wadaagi doonaa hadduu alla idmo imaatinkii sayidka inaan nimaadana waa idinla soo wadaagin insha Allah thank you aad baad